subaxnimadii talaadada ee 21 Oktoobar 1969 saacadu markay ahayd 3 aroornimo waqtiga Muqdisho kuna beegnayd 24 saac kadib aaskii madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa ciidamada militariga iyo kuwa booliiska iskaashanaya waxay qabsadeen dhismayaashii muhiimka ah ee dawladda ee ku yaalay magaalada Muqdisho waxay la wareegeen idaacaddii reediyo Muqdisho iyo jidadka waaweyn ee ka baxa ama laga soo galo magaalada haddaba maxaa soo dadejiyay afgambigan sidee ayaase loo qorsheeyey aynu dib ugu laabanno sanadkii 1967 iyo doorashadii madaxweynenimada Soomaaliya bishii Juulaay 1967 waxaa xilka wareejiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Aadan Cabdulle Cismaan oo uu doorashada kaga adkaaday ra'iisul wasaarihiisii Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxay ahayd taariikhda Afrika markii ugu horeysay ee madaxweyne uu si nabadgelyo leh u wareejiyo xukunka inta doorasho looga adkaaday sida ay qoreen taariikhyahanada Soomaalida waxaa farxadda xil wareejinta nabadgelyada ku dhacday garab socday aafooyin kale oo ay ka mid ahaayeen musuqmaasuq ku shubasho iyo qabyaalad minjaha goynaysay dimuqraadiyaddii curdinka ahayd tusaale ahaan waxaa la sheegay in doorashada ay isku soo taageen ilaa 86 xisbi oo badankooda la sameeyey intii ay doorashadu socotay dhammaantoodna ka soo farcamay 3 xisbi ee Somali Youth League, Somali National League iyo Somali National Union Cusmaan Maxamed Jelle waxa uu la shaqaynayay wasiirkii arrimaha gudaha Yaasiin Nuur Bidde oo qaabilsanaa doorashada waxaana uu ku sugnaa taliskii booliiska oo lagala socday doorashada waxa uu iga sheekeeyay musuqmaasuqa doorashada ee uu isagu indhihiisa ku arkay waxaan goobjoogaha waxyaabihii dhacayay oo abashuurina oo goobaha codbixinta ka imaanayay haddaan tusaalaga kuu soo aado Yaasiin Nuur Xasan loo naxariistee degmada Jahiima lagaa ayuu gaalkaayo ka gooyey si mataqaanaa kursi gooniya loo siiyo waxaa doonay inuu iska garab xikaxo nima alaaba ahaayeen aada xuseen gusaala dhihi jiray ninkii iyo dadkii u batay intii anay magaalada gaarin ayaa amar lagu siiyey in anay magaalada soo geli karin si kastoo ninkii u dacwooday taal buu noo soo diray waa noo yimid guddigii baa ka fadhiyey haddee wasiirka gudaha ayaa noo ah guddoomiye waana ninka meeshiinu kadib ka soo geli doonayo sababa baad la socotaa in loo digay baydhabo inuu xataa liiskii doorashada gudbiyo laba nimo odayaaloo ka horeeyey oo ahaayeen shuhada jimaal allahu naxariiste oo xisbiga SNC lagaa madaxu ahaa jiray iyo abdeedaa xaaji xuseen iyagana waxa la go-aansaday inay soo gelin baarlamaanka taasoo kaliftay inay axjaabtooda laba meelood ka kalaxaan abdeedaa xaaji xuseen waxaa laga rasaxay galoowe iyo galkaayo haddii meel loo adkaado sidaanu meesha kale u siigin shuhada jimaalada beledweyne iyo buulo burto qodobkan musuqmaasuqa waddanka ka jiray ayaa haddaba noqday kan ugu weyn ee gundhiga u noqday inay isku yimaadaan koox saraakiil militari iyo booliis ah oo ay damcaan inay talada waddanka la wareegaan waxay ahayd arrin ku qancisay saraakiishii inaysan dimuqraadiyad wanaagsan aysan ka jirin dalka sida uu sharaxayo Axmed Suleymaan Cabdalla oo ku magac dheer Axmed Suleymaan Dafle waxa weeyaan horta dimuqraadi kama jirin waxay ahayd fawda waxaanay ahayd qabiil waxa keenay 88 bay ahaayeen sidaan anagu tirada ku ognahay xisbi waxay ahayd 88 qabiil weeye bay ahaayeen nin walba intuu geesiisa isu taagay iyo qabiilkiisii la baxay oo uu doonay inay doortaan waxay noqotay inaynu dib isu eegno sidii aynu baadiyaha berigii hore aynu ku ahaan jiray oo innagii aynu iska horjeesano oo dagaalano waa gartay wax yar iga tilmaan marka dhibaatooyinkii jiray markaad hoos u sii gasho xilliga ka hor intaan militarigu talada la wareegin dhibaatooyinku waa badnaayeen waxa weeyaan horta budgetku wuxuu ahaa 290 milyan buu ahaa wuxuu fund u isticmaalay caynkaas ah oo wax la yiraahdo political fund 54 milyan baladaday oo aan wax allaale waxay dawladu qabteen wax allaale waxay tacliin u qabteen wax allaale waxay meel u qabteen aanay jirin rag uun la siiyey oo isagu siyaasiyan maaragta wax kaga doonayay waa ra'iisul wasaarahaasi waa kee waa ra'iisul wasaarihii markaa ugu dambeeyay sogolamis gacanka horti Maxamed Ibrahim Gaal ministerada qaar bacaankaas ahaa ministerka dakhilka ahaa oo isna fundkiisa lahaa oo ama
يعني سباس وحي استعمالي كري سو قرميسي haddaba cidda iska lahayd fikradda hore ee ah in afgembi la sameeyo iyo goorta ay fikraddan dhalatay labaduba aragtiyo kala duwan ayaa laga qabaa umana badna in barnaamijkani xalliyo kala duwanaanshaha fikradeed ee arrintaasi waxaase saraakiisha badankooda ay isku raacsan yihiin in fikradda in isbeddel awoodeedu ka dhaca soomaaliya ay bilaabantay wax yar uun kadib doorashadii 1967 cabdi warsame isaaq ayaa ii sheegay inuu ku jiray 7 sargaal ee ugu horreysay ay ku dhalato in inqilaab waddanka laga sameeyo saraakiishii uu magacyadooda ii tiriyeyna kuma jirin taliyihii ciidanka xoogga dalka sarreeye gaas maxamed siyaad barre anugu sarkaal baan ahaa marka taliyihii waxaan ahaa gaarishonka oo kismaayo ciidamada kismaayo degan ayaan madax u ahaa sidee baad ku ogaatay in afgembi uu dhacayo ka hor intuusan afgembigu dhicin aniga naftarkayga ayaaba abaabulka maaragtay ku jiray oo sameeyey dhalinyaro oo kooban oo saraakiil ah ee meelaha kala duwan maaragtay joogay ayaa maaragtay isxilqaamay marka waa is abaabulnay annagoo dhowr aniga aan ka mid ahay oo kula hadlaay ismaaciil calowkor axmed saleemaan cabdalla maxamed cali shire maxamed cumar jees cusmaan jeelle muxuu ahaa aniga haddee waa ku jira cabdi warsame isaaq aniga bilowgii hore waxaana ilaa 7 maaragtay maxamed siyaad barre mayd ku jiray odiga xogo markii dambe oo howlaha maaragtay ay soo yara shacbaxayeen qasab bay ahayd maaragtay muxuu ahaa annagoo meelo badan fiirinay inaan maaragtay muxuu ahaa asaga maaragtay aan la kaashano sababta waxaa way saad og tahay inqilaab mar maaragtay wuxuu dhacay 1961kii xasan keyd uu hogaaminayay waqooyi ka dhacay marka inqilaabkaas waa fashilay sababihii uu ku fashilina marka waa tixgelinay sidaa daraaddeed waxaa laga maarmaan ahaa taliyaha xoogga dalka inuu howshaas ku jiro horjoogihii kooxdaasi ka koobnayd 7 sargaal ismaaciil cali abokor oo haatan ku nool magaalada hargeysa ayaan isku dayay inaan ka xaqiijiyo fikradda cabdi warsame isaaq hase yeeshee waxa uu diiday inuu barnaamijkani ka qayb qaato waxaase uu igu yidhi oon ka soo xiganayaa dadku waxay u qaybsanaayeen kuwa fikradda iska lahaa kuwa abaabulka lahaa iyo kuwo kale oo lagala kaashaday fulinta inqilaabka cusmaan maxamed jeelle oo ka mid ahaa raggaasi 7 ah ee uu xusay cabdi warsame isaaq waxa uu ii sheegay in inkastoo ay xusuusta cabdi warsame isaaq sax tahay haddana aan meesha laga saari karin inuu afgembiga fikirkiisa ku jiray sarreeye gaas maxamed siyaad barre laftiisa cusmaan maxamed siyaad anigu habeen baa marka gaadigiisa ugu waaday wuxuu doonayay habeenkaa bal in heshiis gaadno meel ku ogaada mawqifkiga ah in dalka laga sameeyo fican waxaan aadnay ilaa daafeed baanu tagnay waa ka nimid magaalada nimid waa gudubnay balcad baan tagnay waa soo laabanay isbitaalka laasirati markaan agmadayno oo intaa uun dhibaatada jirto oo dalka taagan iga sheekaynayo kuna dhici laayahay inuu yidaano ilaab samayno ayaa waxaan fuyda taliya aawna waxaad lahayd dalkaa sidaan laguma eegi karo xalna iimaadan sheegin maxaad xal haysaa waxba kamaabee wuu ka gaabsaday inuu afka ku dhufto aan afgembi samayno anigu ugu soo celiyey 2 jeer na maxay kula tahay anaa marka fu'iyey inaan afgembi samayno ayaa 2 man aad buu intuu farxay xoogaana isyahay geesiga ayuu u yaalay saraakiisha xagga laga keena waadogta waa ba-aan dibutaadkaalkaa bi'iyey niba dibutaadka ku xiran yahay innaga inuu daabaanaysadaa filan la keene fikradda adigu maxaad ka cabtaa haddii anugu inkastoo aan weydiinayo isagoo udiisuba batay laakiin aniga ii sheekaysnaayo inuu toos ila hadla diidaya saraakiisha kale aan ku waraystay barnaamijyadan badankood wax caad ah kama saarna cidda iska lahayd fikradda ah in inqilaab laga sameeyo dalka waa kan maxamed cali samater oo ku nool gobolkan virginia ee u dhow magaalada washington waxa uu ahaa sargaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga saraakiil kale oon la hadlay dad kale oon la hadlay waxay yidhaahdaan maxamed siyaad barre waxay ku daraan dadkii hawsha fuliyey abaabulka iyo curinta waxay iska lahaabay dhahaan saraakiil kale 7 sargaal oo ay ku jiraan ismaaciil cali abokor iyo maxamed cali shire iyo raggaas adi xataa kuma jirta waa iska sheeko arrinta ninka odaga ahaabaa iska laha wixii kaloo dhan waa ku taageereen waxaa haddaba fikraddaasi si weyn ugu raacay maxamed cali samater axmed sulaymaan dafle oo isagu ku nool dalka beljamka fikradda ugu
ugu horreysa waxa iska lahaa maxamed siyaad barre isagaa dadkaasoo dhan isu keenay oo qalqaaliyey wuu yeedhay waktigaa 2 sannadood laga joogo waxa weeyaan ismaaciil ninkii ugu horreeyey ee raggayaga ka mida ee uu u yeedhay buu ahaa koow buu ahaa waxaa la soo gaaray 15 Oktoobar 1969 madaxweynihii waddanka Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo booqanaya dhul abaaro ba'an ay ku dhufteen oo ku yaala gobolka Sanaag ayaa lagu dilay magaalada Laascaanood madaxweynaha waxaa dilay mid ka mid ah askartii ilaalinaysay hase yeeshee cidda dilkaasi qabanqaabisay iyo ujeeddada ka dambaysay labaduba waa hurgumo siyaasadeed oo la maarayn kari waayay ilaa maanta dilka madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu fursad weyn u noqday saraakiishii in muddo ahba ku soo taamaysa inay waddanka taladiisa la wareegaan hadafka saraakiisha ee la wareegista taladana waxaa sii kaabay markii 20 bishii Oktoobar saacada uun kadib aaskii madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke ay shir degdeg ah yeesheen golihii baarlamaanka balse ay ku guuldareysteen inay madaxweyne doortaan waxaa la isku mari waayay in madaxweyne loo magacaabo Xaaji Muuse Boqor oo ahaa musharax uu si weyn u taageerayay ra'iisul wasaare Maxamed Ibraahim Cigaal waa kan Axmed Suleymaan Cabdalla oo ka warramaya fikradda ku jirtay maskaxda saraakiisha inqilaabka wadda xilligaasi dilkii way ku baagantay ama ka faa'iideysa ha noqoto ama wax saxid ha noqoto soo garmaysid wax saxid baanay ahayd maalintii waa la isdil lahaa haddii maxaan ku idhaha Soomaaliya la yidhaahdo waxbaa la dooranayaa baarlamaanka gudihiisa la isku leen lahaa saraakiisha militariga iyo booliiska isugu jirtay waxay go'aansadeen in habeenkaasi ay fuliyaan qorshihi ay muddada sanooyinka ah soo maleegayeen maxamed cali samatar ayaa ka hadlaya xusuustiisii markaasi iyo jawigii ka jiray magaalada Muqdisho kusoo bood ma suuroobayso xukun baa lala wareegaya oo dhibaatadiisa leh oo mushkilada laga hor imaan karo oo khasaare iyo dhiig badan oo daato dhici karo waxaas waqtigaas ugu soo aaday waxa weeye xukunkii dalka waxaa dhacday faaruq madaxweynihii waa dhintay madaxweyne cusub lama dooran waxaa habeenkaa loogu aadiyey waxaa waaye berri waxaa dhici karta in la doorto madaxweyne cusub oo markaa ay noqoto madaxweynaha cusub in eed laga galo sidaa aawadeed wakti uu jiro faaruq xukunkii ayaa lagu beelay waxaan joogay taliska xoogga dalka Soomaaliya oo markaas xerada Afisyoona ku yeelay waxay ahayd maalintii la soo aasay madaxweynihii dhintay Cabdirashiid Cali Sharmaarke dabadeedna ragganagii arrimahaas ku jiray oo maamulkaas iyo abaabulkaas iyo ku jiray waan iska aragnay waxayna nagula habboonaatay in habeenkaas la fuliyo hawshii qorshaysnayd subaxnimadii hore ee talaadadii 21 Oktoobar saacadu markay ahayd 3 subaxnimo ciidanka iyo booliiska Soomaaliya waxay la wareegeen gacan ku haynta goobaha muhiimka ah sida dhismayaasha dawladda idaacadda Radio Muqdisho jidadka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada Cabdi Warsame Isaaq ayaa ii sharaxay sidii ay arrintaasi u dhacday gudoomiyihii markaa baarlamaanka Sheekh Mukhtaar baa maartay siihayaha ahaa madaxweynaha asna wuxuu amray wadanka maartay muxuu ahaa in nabadgelyadiisa la sugo adiga maartay ciidanka markiiba waxaa la geliyay heegan waa la diyaar garoobay in meelaha loo dhiibo rag dhalinyaro oo anaga fikirkeena maartay wata taangiga muxuu ahaa diyaar buu ahaa kulli meel raag la yiraahdo dekada agteeda diyaar bay ahaayeen ciidamada waxa la maartay xalanahaas iyo meesha maxay ahayd hiil weyno ayayna commandasku deganaayo wixii oo dhan diyaar baa lahaa marka nin hadda taariikhdiisa weli ay wax ka dhameeyeen oo salaad gabayr leeyahay ayaa maartay ahaa abaabulka hogaanka abaabulka joogay aniga ku xigeenkiisaan lahaa waxaan u dirnay maartay jeelle iyo Cusmaan Jeelle haddana ku sheegay taangiga muxuu ahaa gabayr iyo group kale iyo kullina ay operationkii maartay ayay kormeerayeen hawsha si u socdeen booliiska waxaa madax u ahaa qorsheel baa madax u ahaa qorsheel maxamed siyaada wada socdeen habeenkii oo dhan adiga saacad 9 saac markay tahay loo sheegay waxaa la yiraahday qorsheel ma raacaysa masuwa dhinac kala aadaysa marka waxa yidhi war ma la horsatay meeshii taliska booliiska ahayd iyo meel sarandi oo ciidamada daraawiishta ay deganaayeen iyo waxaas oo dhan la maartay muxuu ahaa waxaa lagu wareejiyey
beebeyaal iyo maaragtay hore baa loo qabtay marka waxaa la yidhi waxaas waa la qabtay howshaas waa dhantaa la yidhi adigaan maaragtay ku wargelinayna keliya howshana sidaasay maaragtay ku dhamaatay axmed sulaymaan dafle ayaan wax ka weydiiyey tallaabooyinkii ugu horreeyay ay ciidanku qaadeen adigu xilkaagu muxuu ahaa markaa jagadaadu maxay ahayd darajadaada anugu darajadeedu mijir bay ahayd gaashaanle waxaan ahaa maxaan ku idhahdaa sarkaal ka tirsan headquarterka maxaan ku idhahdaa gaashaandhigga oo qaabilsan wardoonka sirta ma maqashay military intelligence subaxdii markaa kacaan ku dhashay hawsheedu waxay ahayd anugu ninka qura dawladda yaqaanaan ahaa nin dhinacaas ku shaqayn jiray waddanka meel walba kaga jiri karay yaan ahaa ninka dawladda markaa ragga iyagii militariga ugu aqoon badan iyaga iyo meelahay degan yihiin baan ahaa dabadeed ninkii soo xidhxidhay ee iyaga loo diray inuu soo xidhxidho yaan ahaa yaad soo xidhxirtay marka xubno badan oo dawladdaa la xidhxiray kadib dawladdii intii ahayd oo dhan waliba waxaa ku jiray kuwa aan markaa dawladda ahayn oo muse boqoriya lahaa iyo maxaan ku idhahdaa cabdirasaaq iyo aadan cadde iyo lahaa oo dawladihii hore ahaan jiray maxaa loo xidhayana waxaa loo xidhayay maxaan ku idhahdaa yaanay kacaanka iyagu maxaan ku idhahdaa la dagaalamin waa ragga in xukunkiina dee markaa laga kaxeeyo yaa loo xidhayay waxaanu ku xidhnay guri sharaf leh oo maxaan ku idhahdaa madaxweynuhu lahaa oo afgooye ahaa gurigaasaanu ku xidhnay saacaddu markii ay ahayd 6dii subaxnimo waxaa war cad laga akhriyey idaacadda reediyo muqdisho codka ummadda soomaaliyeed waxaana warkaasi cad lagu sheegay in tallaabada ay ciidanku qaadeen loo qaaday si soomaaliya looga badbaadiyo musuqmaasuqa iyo qabyaaladda ay ku dhaqmayeen dabaqadihii wax xukumayey waxaana dadweynaha loo sheegay in mar dhow uu soo gaari doono war wanaagsan subaxdiiba waddanka si fiican baan u qabanay markii waagu beriyey waddanku gacantayada ku jiray wax dhiiga kuma daadan badan iyo yar midna waxaanu subaxdiiba soo saaray xaashdii koowaad oo siyaasaddii waddanka gudihiisa aanu ku dhaqaynay iyo tii maxaan ku idhaha dibadda aanu kula dhaqmaynay intaba ay ku qeexan tahay waa subaxdii 21 October inay iska diyaarsanaayeen sida aad ku garanaysaa waa sidaa barqanimadii subaxdaasi 21 October waxaa soo baxay hadalkii labaad ee ciidanka waxaana looga dhawaaqay in dalka uu ka dhashay kacaan galinkii dambe ee maalintaasi ayaa kulan ay saraakiisha ciidanku ku yeesheen shir kale ofishaale waxaa magaca hogaamiyaha golaha kacaanka ku hadlay maxamed siyaad barre waxaa looga dhawaaqay in la aasaasay golaha sare ee kacaanka oo ka kooban 25 xubnood qabsashada xukunka ee militariga waxay ahayd mid ay dad badan markaasi soo dhaweeyeen sida uu xusuusto mid ka mid a macallimiintii dugsiyada sare ee magaalada muqdisho maxamed faarax jimcaale anuu markii kacaan ku dhashay waxaan shaqaynayay 1 sano iyo 6 bilood aad baa loogu farxay aad baa loo soo dhaweeyey tallaabadii ugu horreeyey oo qaaday waxay ahayd niman mutacalimiin oo dhalinyaro oo maamul yaqaan oo wasiiro ah baa markii hore ishaaradihii loo magacaabay runtii waxa weeye nin kasta oo wax bartay waa ku faraxsanaa rajaa gashay cadaalad inay soo socoto buu qalbiga gashay niyeystay waa gartay marka waxaad leedahay lagaba maarmaan buu ahaa kacaanku inuu yimaado ilaa waxay ahayd khasab bay ahayd laga maarmaan buu ahaa ubaxba meel walba rag dumar caruur oday sidii nin walba ubax buu la soo kacay rag in la qabto nin walba oo Soomaaliya raalibu ka ahaa dhibaato yani ay jirtay 9 sano yani wax cadaalad xumo ah oo aan loo adkeysan karin baa dadku maray dadka qaar waxay yiraahdaan dimuqraadiyad curdina oo koraysi ayaa wadanka ka jirtay haddii uusan kacaanku iman lahayn maanta Soomaaliya wadan ka bedelan buu noqon lahaa kan oo hadaya ma run maaha waxa soo socday anarkii baa soo socday hoos baa loo socday yani xageeba taashajadu mar haddaan doorashadii aysan ahayn cadaalad ahayn wax la dooran karin mar haddaan qofku inuu aqoontiisa ku talageli karin inuu shaqo raadsado wax rajaahoo soo socda oo runtii maaragtay dhinaca dimuqraadiyadeed iyo dhinac maamul iyo dhinac cadaaladeed iyo meelna wax wanaagii kama soo socon runtii habeen iyo maalin daharaad baa ku jiri jirta dalalka dariska la ah Soomaaliya iyo beesha caalamka inteeda kaleba gaar ahaan labadii quwadood ee markaasi jiray waa Mareykanka iyo Midowga Sofiyeed si taxadar leh ayay u fiirinayeen isbeddelka dhinaca awoodda ee ka dhacay Soomaaliya dhinaca siyaasadda dibadda golaha sare ee kacaanku si dheer ayay amuurtaasi uga hadleen
warkii caddaa ee ka soo baxayna waxay ku sheegeen inay raaci doonaan siyaasad meeldhexaad ah iyadoo xiriir saaxiibtinimo lala samaysanayo waddamada dunida. golaha sare kacaanku waxaa kaloo ay warka cad ay soo saareen ku sheegeen inaysan faragelinayn arrimaha gudaha ee dal kale balse ay si muuqata u taageeri doonaan halgannada dhaqdhaqaaqa xornimadoonka ah ee ku jira gacmaha gumaysiga. hadalkaasi dambe ee ay soo saareen golaha sare ee kacaanka waxaa nuxurkiisu ahaa in golaha sare ee kacaanku ay yabo toos ah u fidinayaan laba urur oo sheegay inay u dagaalamayeen dhaqdhaqaaqa xoraynta Soomaalida. labadaasi ururna waxay kala ahaayeen WSLF iyo ururkii la oran jiray ololaha xoraynta NFD. hadalkaasi kadibna afhayeenu hadlay dawladda Itoobiya ayaa maalintii xigtay afkambiga sheegay in madax sharaf Itoobiyaan ah oo xilligaasi magaalada Muqdisho u yimid aaska madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo diblomaasiyiin ka joogtay magaalada Muqdishoba inay la soo noqonayso. waxaa isna walaac ka soo yeeray dhinaca dawladda Kenya kaasi oo ku saabsanaa in militarigu aysan ixtiraami doonin heshiis colaad joojin ah oo 1967 ay kala saxeexdeen ra'iisul wasaare Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo madaxweynihii hore ee Kenya Jomo Kenyatta. gudoomiyaha golaha sare ee kacaanka ahna madaxweynihii Soomaaliya waxa uu shukaantii siyaasadda Soomaaliya u leexiyay jiho ka duwan tii dawladdii isaga ka horreysay. waxa uu ku dhawaaqay siyaasaddii loogu magac daray hanti wadaagga cilmiga ku dhisan. Soomaaliyana waxa uu ugu yeeray waddan hanti wadaag ah. intaan la gaarin sanad guuradii koowaad ee kacaanka waxaa dalka la keenay boqolaal tababarayaal militari ah iyo xeeldheerayaal Sofiyeed ah. xaruntii ugu weyneed ee wakaaladda sirdoonka ee Sofiyeedka KGB ee qaaradda Afrika waxaa laga dhisay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. si kastaba ha ahaatee si ay militarigu xididdo ugu sii taagaan nidaamka ay la yimaadeen ee hanti wadaagga ah waxay qarameeyeen shirkado iyo mashruucyo dhowr ah oo ay lahaayeen shirkado iyo dalal shisheeye iyo weliba kuwa ay Soomaali leedahay. hantiyaha la qarameeyey waxaa ku jiray bankiyo, xarumo dhaqan, shirkado iyo hay-ado kale oo dhaqaale. dawladdii hanti wadaagga ahayd waxay bilowday inay xirto iskuuladii iyo xarumihii waxbarashada ee ay maamulayeen dadka ajaanibta ah. tallaabadaasina waxay qayb ka ahayd socodka hanaankii lagu hirgelinayay qoraalka farta afka Soomaaliga oo aan hore u qornayn. sanadkii 1972 ayaana markii ugu horreysay taariikhda dalka Soomaaliya la qoray farta afka Soomaaliga. arrintan ayay xubnihii dawladdaasi ku jiray isku raacsan yihiin inay ahayd siyaasaddii ugu taabagalsanayd ee uu sameeyo kacaankii 21 Oktoobar. waa kan Axmed Saleebaan Dafle oo arrintaasi ka hadlaya. kushii ugu weyneed kacaanku gaaray waxay ahayd af Soomaaliga la qoray 5% bay ahayd. maxaan ku idhaahdaa waxa wax qori kara ee wax akhriyi kara ummadda Soomaaliyeed markii hore af Soomaaliga ka hor markii af Soomaaligii la qoray ummaddii wax qoraysay ee Soomaaliyeed waxay noqotay 7%. waa sanado yar gudaheed baynu sidaa ku noqonnay oo ku gaadhnay. waxa layna siiyey maxaan ku idhaahdaa prizes baa layna siiyey, World Prizes, UNESCO Prize of Literacy, waxa layna siiyey Shah Prize of Literacy boqorkii Shah u bixinayay ee Iran. isla sanadkaasi madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa uu Soomaaliya ku daray ururka Jaamacadda Carabta. abaalgudna waxaa looga dhigay taageero badan oo lacag ah. 2 sano kadib 1974 waxaa dawladda Soomaaliya ay martigelisay kalfadhigii 11aad ee dalalka Midowga Afrika. waxaana madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uu noqday gudoomiye sanadeedka ururka Midowga Afrika OAU. muddadii uu xilkaasi hayayna 2 waddan oo Afrikaan ah oo kala ah Angola iyo Mozambique ayaa xornimo ka qaatay gumaysigii Boortaqiiska. dawladdii hanti wadaagga ahayd waxay bilowday inay xirto iskuuladii iyo xarumihii waxbarashada ee ay maamulayeen dadka ajaanibta ah. tallaabadaasina waxay qayb ka ahayd socodka hanaankii lagu hirgelinayay qoraalka farta afka Soomaaliga oo aan hore u qornayn.
sannadkii 1972 ayaana markii ugu horraysay taariikhda dalka Soomaaliya la qoray farta afka Soomaaliga. arrintan ayay xubnihii dawladdaasi ku jira isku raacsan yihiin inay ahayd siyaasaddii ugu taabagalsanayd ee uu sameeyo kacaankii 21 Oktoobar. laakiin xukumayaasha kacaanka wax kasta sidii ay filayeen uguma dhicin, waxaana ka hor yimid markiiba caqabado aad u waaweyn. waa marka hore waxaa soo ifbaxday in tuhun soo kala dhex galay saraakiishii afgembiga ka dambaysay qaarkood. saraakiisha qaarkood ayaa taageersanaa inqilaabka, laakiin waxay diidanaayeen in sarreeyagaas Maxamed Siyaad Barre uu noqdo hogaamiyaha dalka. saraakiishaasina waxaa ka mid ahaa taliyihii hoggaanka abaabulka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Salaad Gabayre Kadiye, oo si weyn uga dhex muuqday saraakiisha, taageerayaal badanna lahaa. waxaa iyaguna jiray saraakiil kale oo aysan caddayn inay ku xirnaayeen Salaad Gabayre, balse iyaguna sidooda u diidanaa Maxamed Siyaad Barre. waxaana saraakiishaasi ka mid ahaa Cabdulaahi Yuusuf Axmed iyo Maxamed Faarax Caydiid. waxaa la sheegay in labadoodaba jagooyin diblomaasiyadeed laga siiyey dalalka Tanzaniya iyo Suudaan. markii ay diideenna waxaa durbadiiba loo diray xabsiga. Dr. Xasan Cali Mire waxa uu ka mid ahaa xoghayayaashii ugu horreeyey ee uu magacaabay kacaanku, balse isaga iyo laba kale ay wax yar kadib magacaabistooda iska casileen, iyagoo taasi u aaneeyey kala fikir duwanaansho in dalka loo sameeyo dastuur. anigu markaas run ahaan waxay ahayd militarigana wax kama aqoon oo dibaddan ka imid. anigu 62 baan America ka tegey oo ka Soomaaliya tegey. marka Cabdullaahi iyo Caydiid baa xoogaa la dareemay oo Maxamed Siyaad Barre dareemay inay hunu ka dhaxayso. labadaana la tuhmayay reer muduga. labadii wuxuu ka dhigay aqalka inay ka bixin markuu qabtay. 5 nin oo ministerada markuu naga dhigay baan u tagnay isaga. war hadeer aan ugu furfurin yani military waqtiga magaalada inta leeg lagu diro in nimanka xalka siida guriga leedahay ka bixin meeshan iyo kan iyo nagama maqal. dabadeedna hadda sidii baa lagu kala tegay. Caydiid Allah naxariista aqalkaygu igu yimid isagoo nin la socda oo la kugu mahadnaqayaa inaad xalay la hadasheen Maxamed Siyaad Barre. anigu keligay ma ahayn baan u sheegay, laakiin haddee heshiiskii waa adiga idinkana waa idin leenahay inaad dagaal iyo rabshad iyo inaan dhex gelin. haddaba madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa uu u arkayay in halista weyn ay ka imanayso dhinaca Generaal Salaad Gabayre. Cabdi Warsame Isaaq ayaa xusuusta khilaafkii jiray sida uu kacaanku u arkayay xilligaasi. Salaad Gabayre waxaa tiri taariikhdiisa waxbaa ka dhiman, maxaad u tiri hadalkaas? waxaan u yidhi waxa weeye grouping ayaa maaragtay ka yari jiray jeeshka dhexdiisa. marka nimankaa waxay ahaayeen nimankii markii Maxamed Siyaad iyo darajada laga reebo ragga ugu darajo waaweyn bay ahaayeen. xoogoona waa isbadaayeen saraakiil oo yara darajo hoose ayay noo arkayeen. guddi bay sameeyeen. guddigii markay sameeyeen guddiga waxaa madax u ah Cabdulaahi Yuusuf iyo Caydiid ayaa madax u ahaa. Gabayre wuu diiday, wuxuu yidhi Cabdulaahigaas bal ha joogo, laakiin anagu Caydiid ma ogolay. guddigaas marka muxuu ahaa? guddi oo ayaga ay samaysteen saraakiishan sare kolonelayaasha ayaga ay samaysteen oo qaabka ayagana abaabulka dhinac kale oo la garab socdaa jiray. marka guddigoodiibuu ka soo carooday, sidaasoo annaga noo soo biiray markiiba maartay. bartamihii 1971 dawladdii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa ay qabqabatay saraakiil dhowr ah oo ku jiray Generaal Salaad Gabayre Kadiye oo ay ku tuhuntay inay ka dambeeyeen inqilaab. sannad kadibna bishii Juun 1972 dawladda militariga ahayd waxay daldashay 2 xubnood oo ka tirsanaa golihii sare ee kacaanka, kuwaasi oo kala ahaa Generaal Salaad Gabayre Kadiye iyo Generaal Maxamed Caynaanshe Guuleed iyo sargaal saddexaad oo lagu magacaabo Korneel Cabdulqaadir Dheel. Generaal Salaad Gabayre waxaa si weyn loogu eedeeyey inuu inqilaab abaabulayay. Cabdi Warsame Isaaq ayaa iiga sheekeeyey wixii dhacay. Salaad Gabayre, Maxamed Caynaanshe Guuleed iyo Cabdulqaadir Maxamed Guuleed Dheel saddexdoodaba waa la dilay. sidee uu ku yimid dilkaasi? wallahi kulay hay'adihii oo nabadgelyada markaas already maartay muxuu ahaa nidaam baa dhashay, dawlad baa jirtay, qolooyinkii security iyo wixii oo dhan baa maartay muxuu ahaa yani howlahooda maartay muxuu ahaa ayaa shaqaynayay. marka aniga horta waxaa iiga xog ogaal fiican security-da qoladii madaxda ahayd Axmed Kaan ayaa madax u ahaa, Axmed Salaam. laakiin waxa weeye haddee Salaad inqilaab buu waday. waa gartay. marka raggan kalena way la wadeen inqilaab buu waday. muxuu ahaa Cabdulqaadirna dadka oo
kacandiidka ahaa oo berigii maaragtay ka hor xataa ay odayga islalaayeen ayuu ka mid ahaa. waa gartay caynaanshana meel uma hayo aniga. waa gartay aniga odaygaas maaragtay muxuu ahaa caynaansho la yidhaahdo maalin uu meesha ka hadliyo oo meesha golaha uu yidhi maaragtay muxuu ahaa meesha waxaa qabtay maaragtay xoogga dalkaa qabtay annagu waxaan nahay ku-xigeenkii xoogga janan baan nahay marka boliis inuu maaragtay way qorsheel baa maaragtay muxuu ahaa ku-xigeenka koowaad ahaa wasiirka arrimaha gudaha laga dhigay marka xoogoo meelahaas ayaad moodaysay inuu yaro diidanaa haddaan wax uun maaragtay aan ka yidhaahdo wax kale wallahi aniga caynaasheen wax badan kama sheegi karo. cusmaan maxamed jeelle oo ii sheegay inay si aadah saaxiib u ahaayeen salaad gabayre ayaa qiray in generaalku uu qabanqaabinayo inqilaab waxaase uu ku adkaystay in la daandaansaday laguna qasbay inuu mowqifkaasi fog qaato waxaa kaloo uu ii sheegay in laga baaqsan karay dilka saraakiishaasi. wallaahi ma wada aha sida mataqaanaa lagu wada eedeeyey jaamacada oodaskeed wax dhibaata inuu waday ma abo abdulaadir dheelna maba ahayn golaha maxamed caynaanshe isaga nafsadiisa wax abaabula ma gelin salaad gabayre allah dhammaantood u naxariistay waa jirtay inuu abaabul galay laakiin isweydiintu waxa weeye maxaa ku kallifay salaad waa lagu kallifay waana lagu riixay maalinta la amanayey habeenkii ka horeeyey aniga asagoo islaanay hoteelka la yiraa kadoolka deelisuud baan ka casheynay maxamed siyaadna waa ogaay nabadsuudana waana daba sootay markii dacwadiisa ii sheegtay aada baan runtii uga xumaaday maxaa yeelay isaga uu ah nin janan ah oo ah golihii sare oo wasiirad ah oo xaaskiisii wato oo galabtii magaalada ka baxay oo afgooye meelahaas loo wareegay ayaa kontaroolka afgooye askari ku joogisay ma bixi karti waan yaabay buu yidhaahday maxaa dhacay maamed baa dhabtiin ha samaytaanin ha hataa janalkaagabay taliga waana salaamayaan inkana walada weeye walad baa taal u saxiixan yahay nin aduu markaa golaha ka mid ahaa aan doonay inaan hadda waxba sheego yaab baa alla u keenay uu soo laabtay waxaan hadday sidaasi jirto golaha keen dacwadaana wuxuu ahaa marka nin aada iyo aada geesi u ah geesinimo gaato ilaa nacasnimo wuxuu waxba mataqaanaa ka dacwoomahayo hebel iyo hebel waxan hadageel ma aha meeshii adna waxbaa lagaa sheegi ismana daato aysid intay ku horeysana xoogaa joogjogeyn fara badan baa jirtay walaga aadan cabdulle xiriirdiisii waxay ka mida joogjogeynta siyaasid kuma jirin nin hadda dhibaato wadana ma ahayn hadiga gelintaa dacaayad baa laga feliya laleeyahay gabadhii aadan cabdulle maadaama waray salaad gabadhaa dabaday ka wado nin naaga wado iyo dibi u wadaaho kaama joogsadaan baa layihi waxyaabaha la sheegiya waxa weeye xataa ninba ma ahaydin egtay naasadaadu bay ibtilaahdaa habayba dhaantidin haddaa nin tahay aabay lama xideen anigu inantii baan naftadeedii weydiinaa maxaa kuu kalifay faadumoy way ka dhaalatay macluulna ma aha marka saykoloojiyan in laga dhaadhiciyo golihii inuu ninkii nin dhibaato soo wada yahay ayaa jirtay markaa isagu waa abay waana abaabulay muxuu ahaa cilaab dabweeye laakiin hadda waa lagu kalifay waana laga kaaftoomi karay dilkane ma ahayn tala fiican in la xiyo unbaa habooneed 1971 kadib markii la qabtay jenaraal salaad gabayre kediye ayaa wasiirka gaashaandhigga loo magacaabay maxamed cali samatar raggii la qabtay dembiga galay markaa la xukumay maxkamad la geeyey ku caddaaday dembigii lagu marag furay dabadeedna sharciga siduu dhigayay la mariyey wax ay keeneen oo arrintaas ay keentay oo dib u dhac iyo weakness ah midna ma jirin saraakiisha ku wada jiray golaha sare ee kacaanka waxay ku kala aragti duwanaayeen in xubnaha la daldalay ay dhammaantood inqilaab ku jireen axmed sulaymaan cabdalle waxa uu markaasi ahaa madaxii hay-adda nabad sugidda waxa weeyaan way ka hor yimaadeen waxaanay dooneen inay inqilaab nagu sameeyaan pure dabadeedna waa la xidhxidhay intaanay iyagii samayn inqilaabkii ee annaga aanay amana xidhxidhin amana layn yaanu iyagii xidhxidhnay markaa adu door intee leeg baad ka ciyaartay xidhxidhidda
nabadda ninka suga yaan ahaa waa garta yaa ogaan kara markaa iyaga iyo waxay ku jiraan shaqadeeday ka mid ahay marka maxaad ku hesha haddaad wax iiga sheegi karto waxaan ku helay wixii maxkamadda lagu soo taagay maxkamad baa la soo taagay maxkamaddana waa lagu caddeeyey dembigoodii dabadeedna waa kii lagu xukumay dilka saraakiishaasi kadib dawladdii kacaanku waxay mar kale lugaha la gashay caqabado hor leh oo soo food saaray 1973 dawladda madaxweyne maxamed siyaad barre waxay soo saartay xeerkii lagu magacaabay xeerka qoyska oo u oggolaanaya haweenka inay la sinmaan ragga xagga xuquuqda dhaxalka arrintani waxay ka mid ahayd gafafka ugu waaweyn ee golaha sare ee kacaanku uu sameeyey waayo tallaabadaasi waxay gebi ahaanba liddi ku ahayd aayado qur'aanka kariimka ah waxayna xubnihii ku jiray dawladdaasi ay isku wada raacsan yihiin inuu ahaa qaladkii ugu weynaa abid ee ay gasho dawladdii madaxweyne maxamed siyaad barre waxaana ololihii arrintaasi lagu diiday hormood ka noqday culimmada diinta islaamka kuwaasi oo markii ay si cad uga hor yimaadeen xadgudubkaasi lagula kacay diinta islaamka la qabqabtay sababta ay haddaba culimmadu uga hor yimaadeen waxay ahayd xeerkaasi oo ka hor imanayey aayado qur'aanka kariimka ah aayadahaasi kuwa ay ahaayeen waxaa sharaxaad ka bixiyey muftiga weyn ee Soomaaliyeed Sheekh Cumar Faaruq xeerka wuxuu qeexayay in ragga iyo haweenku isku mid yihiin ayaduna waxay qeexaysay inaan isku mid ahayn ayadaha markaa inaan ragga iyo haweenka sinayn sheegaya waa badan yihiin oo walaysa dakaru kalunsaa baa ka mid a walaysa dakaru kalunsaa macnaheedu yahay axadka lab ka dhadig lamid maaha waxaa ka mid a ayada suuratu nisaa ada asusta adiga oo macnaheedu yahay lidakari mithlu xawdil unsayeyn lidakari mithlu xawdil unsayeyn oo macnaheedu yahay axadka lab oo ragga ah wuxuu leeyahay laba dhadig dheeftood oo macnaha waxaa isku dhaxala laba dumara iyo hal wiil ayadahaas bay ahaayeen waxa la isaga hor yimin oladan kacaankana saqajaa waxaasoo dhan bay u arkayeen waxaan fiicnay oo saqajaana marka ninkii waddanka xilligaa haystay hadalladan ka xusa maalinka uu ku hadlay waxaa kamid ah wuxuu yidhi wax kaleba iska daayo naanaysta xataa loo kala yaqaano dig iyo laboodka lama kala bedeli karo haddii ninka la yidhaahdo jaalle hadalkiisii wey waa qoran yahay waana dhuuban yahay haddii ninka la yidhaahdo jaalle gabadhana la yidhaahdo jaalley yeeli mayna wey ninkuna waa jaalle gabadhana waa jaalle wuxuna wada jaalle kolka wax bala wadatuu ahaa kolka aragti fog oo aan ummadda soomaali xiriir iyo qaraabo la ahayn oo gaalo ka soo jeeday baa dalka la keenay in lagu dabaqana la damcay qarankuna diiday jumlatan wa tafsiila sidaasaa wixii dhacay ku dhaceen oo nin hadeerba boqortooyada joogo aanan weli geeridiisa maqaloo janan ahaayo qoladan loo yaqaan guulwadayaasha ahaayo la dhihi jiray cabdiwahaab makaahiil baa ku jiray dadkii aan odaga laga celiyay intuu tagu gundaha iyo lugaha qabsaday odaga oo uu yidhi balaa karaysa hog iyo ba'baa foolanayo suuqii baan ka imi cirkaasaa ummaddu maraysa dhibaataa maanta dhacaysa adaana baajin karee waxaad yeeli wadaadadii almasaajidka ka qabatay siida idaacadana haddaba u yeedho oo inaad wadaadadii sii daysay iclaani u sheeg ummadda siina daa wadaadada beledana dami hadhowna si xigmaa wax u maamul wuxuu ku yidhi bilxarfil waaxid way cabsadeen nala odhan maayo axmed sulaymaan dafle ayaa ka warramaya sida uu xeerkaasi ku yimid culimadii waa kacday runtii culimadu waxay ka kacday sinaantii haweenka iyo ragga raggii iyo haweenka markii la yidhi waa la sinay waa sinan yihiin qodob qalad nooga dhacayna waa ku jiray meesha runtii keebuha waxa weeyaan qodobkii oo ahaa dhaxalka wiilka iyo gabadha walaali way u siman yihiin markaanu nidhi qodob qalad nooga dhacay buu ahaa waayo qur-aanka waxaa ku qoran wiilku wuxuu leeyahay gabadha laban laabkeed qur-aankii inaan ka hortagna ma ahayn marka maxaa ugu qorteen waxaan ugu qoranay waa iska jibaysnaynoo de waxaanu nidhi maxaanku idhahdaa ragga iyo dumarka sima waayo dumarkaa runtii soomaali haddaynu nahay raggeenna dumarkaa ka fiican maantaba way muuqataa waxa maanta reeraha masruufa waa dumar 90% wax waa bixiya waa dumar kacaankayagii wuxuu diskabargareeyey inay dumarku ragga ka fiican yihiin dumarka soomaaliyeed ragga soomaaliyeed inay ka fiican yihiin yuu diskabargareeyey markii bulshadii aanu kicinay ee aanu hanuuninay aanu nidha aynu shaqaysano ee shaqo loo dhaqaaqay dumarkii inay ka fiican yihiin markaasaanu nidhi dumarku ragga waa la siman yihiin markaasaa wadaadadii nagu kicin
cusmaan maxamed jeelle waxa uu iga sheekeeyey in madaxweyne maxamed siyaad barre uu uga digay xeerkaasi balse taladiisa la dhagaysan waayey. dadweyne waxa uu doonayo inaad samayso ayaa habboon. wax badan baan kala hadlay saaxiibkay maxamed siyaad allahu naxariiso. waxaan idhi xoolo badan oo hadda la dhexlaa Soomaaliya magaalooyin dhibaato inoo aan u abno hadda ma taqaana baahi aan u abnana ma jirta. dhibaatada ay Kenya ka badan haddii diin ahaan aanan yeelaynin alalaha danteena dowlad ahaan ma aha arrintan aleego. ilaahay dadka abuura ayaa og. waxaa ayaddu ku dhamaanaysaa qofkii diido xuduudka ilaahay soohdin buu dhigay. soohdintaa ninkii ka gudbo dee dhibaatuu la kulmayaa. ase waxaa weeye fallaad xoogli meeshaas waa inooga dhacday. inkastuu anigu anan ilaahay mahadii ka mid ahayn intii ogolaatay ama goobjoog aan ahayn oo dibadda ku maqnaay haddana dhibaatadeedu aniga ii badneed oo degdeg soo gelinta layiri wafdi laygu dheelayay ka soo dhaadhici. bal caalamaha iyo dalalka muslimka wax laga dhaadhici karo anay ahayn. wax xusuustaa intii laga duulaya waxaan la-aday ciddii go-aamisay ayaa ay gas tahay inay iyadu usoo sheegto dadka ka xanaagsan. waan xusuustaa in saaxiibkay ahayo ama haddaan tilmaamaba axmed sulaymaan oo saxaabadeyda ka mid ahaa ayaa ku cadfaysay wuxuu waxaan ismaan ahayn in aga bixinaya amaanta ma jiraan. weli waan xusuustaa maana sugaad u xusuusay haddii kale ilow inuu tagaa markaan xoogaa diiday axmed siyaad inuu soo dhaco labaad. 1975 waxaa mucaaradada ay kala hor yimaadeen xeerkaasi qoyska fagaare loogu toogtay 10 ka tirsan culimmada Soomaaliyeed oo ka mid ahaa culimmadii la qabqabtay. Sheekh Cumar Faaruq oo ay yaqaaneen culimmada la laayay qaarkood ayaa nooga warramay sidii ay wax u dhaceen. halkii markaa wuxuu noqday odaga amar buu bixiyey xilligaa waddanka haystay. amarna wuxuu ku bixiyey wixii ka hor yimaadaa go-aanka dawladda in laga faraxasho laga takhaluso uu amar ku bixiyey. markaa sheekh ibraahim zuule iyo dhowr sheekh ayaa la xirxiray. masaajidii baa laga khudbeeyey oo xamaasaa lagu khudbeeyey oo waxaa kacday gadood ama dareen heer sare ah. culammadu rag culamo ah oo ana waa ku jireen oo shaksiyan u aqiin. rag wadkood galayna waa ku jiray oo maalinkaas ka dhintay. culammada marka caanka ee aan aqiinay waxaa kamid a 2 nin ragga haddaan sheegan xusi karo oo caalimiin aha oo ku darsaday cilmiga zuhdi waxaa la yidhaahdaa wadaadada aan sidaydoo kale naaga hadanaynin oo caruurta iyo waxa iyo aan lahayn. marka 2 zaahid bay ahaayeen. kitaabkaanu wada akhrisan jiray. sheekh ibraahim suley baa noo akhrin jiray kitaabka xadiis buu riyaad saalixiin saytaasi gaale. gadoodka markuu dhacay sheekhiyaha dhintay oo shaksiyan u aqiinay mid wuu hadlay hadal yar oo kooban buu yidhi oo macruuf oo dee la yaqaan warkii haddaba waa duuban yahay. wuxuu yidhi ruus iyo soomaali wax ka dhexeeya ama kulmiya ma jiraan. ruus waa gaaluu yidhi, soomaalina waa muslim buu yidhi. ruus waa caddaan buu yidhi, soomaalina waa madow buu yidhi. yurub weeyi ruus, soomaali africa weeyi yidhi. wax ruus iyo soomaali kulmiya ma jiraan buu yidhi. dadka markaa naga daba wada buu yidhi oo iyadoo aan diin iyo degmo iyo dadnimo iyo midab iyo mabda waxna kulmiya ruus uusan jirin dadka nagu khasbaayeen naga dawad ilaahay uu naga qabto. nabad sugidii wixii baa joogto beledu waa foolanaysa. sheekh intaasuu yidhi dhab baa la yidhi. sheekh kale isaguna sidaas oo kale ayuu xamaasa muujiyey. 2dii sheekh waa la qabtay. culamo badan oo gadoodayna waa la qabtay. sidaasaa wixii dhintay ay ku dhinteen. maadaama waxoogaa laga soo wareegay inkastoo raggii aqiin sheekh axmed iimaan la odhan jiray wasaaradda waxbarashada ah raggii maalinkaa dhintay buu ku jiray. sheekh axmed iimaan baa la odhan jiray. dilka culimmadan iyo kii loo geystay xubnihii kale ee ka tirsanaa golaha sare ee kacaanka waxaa raadreebkoodu noqday in culimo, siyaasiyiin, aqoon-yahano iyo dad caadi ahba ay bilaabaan diyaargarowga mucaaradnimo lagala hortago maamulka madaxweyne maxamed siyaad barre. maxamed siyaad barre waxa uu ka fikirayey tallaabada uu kaga hortegi lahaa mucaaradnimo lagala hor yimaado iyo sidii uu mar kale dadka isku dhinac ugu jeedin lahaa. 1976 ayuu soo bandhigay hindise cusub oo ku talinaya in la dhiso xisbi talada haya oo lagu magacaabo xisbiga hantiwadaaga kacaanka Soomaaliyeed. isla sanadkaasi ayaana qodobkaasi la meel mariyey waxaana lagu dhawaaqay dhismaha xisbiga hantiwadaaga kacaanka Soomaaliyeed.
loomana adkaysan in wax xisbi ah oo mucaarad ah uu ka garab dhasho samaynta xisbiga lafteeda ayaa la sheegayaa haddaba inay caqabad hor leh ku noqotay kacaankii waxaa la sheegay inay horseeday in awooddii kacaanka iyo xukunka waddanka ay baahdo siyaabaha ay haddaba caqabad ugu noqotay dowladdaasna waxaa sharaxaya maxamed faarax jimcaale dhaawaca labaadoo weyn oo khatarta ah waxaa xisbigii abuuritaanka xisbigu ahaa jaamacadaha dood baa ka fufray ninkastoo mutacalimi waa doodi jiray aaraada waa la isdhaafan jiray kacaanku naftiisu doodahaas waxbuu ka qaadan jiray arrinta waxay saxsaxtay markii xisbigii la sameeyey ana waxaan garanayaa markii la sameeyey banaadir secondary school baa waxaan ka ahaa maamule 3 macalin oo jaamiciyiin ah baa ila shaqeynaysa iyo macalimiin raasha waxaan xusuustaa xisbigii waxaa lagu soo daray 2 dumara oo dhulka xaaqda hal qof oo macalimiintii iyo raggii meesha joogay iyo dadkii waxgaradka ahaa waa laga reebay waxaa dhacday marka meeshii meel xiran bay noqotay ururka haweenka ururka iskaashatada ururka dhalinyarada ururka kan yani meel xiran oo weliba dadkii eliidka ahaa oo looma aqoon dadka maaragtay maskaxda furan oo dooda waxaa loo bixiyey kacaandiid baa loo bixiyey dad wada baafi ah oo masaakiin ah oo dood badan iyo dhibaato badan baanu isla galnay ragga xisbiga ahaa waa gartay marka siyaasadda guud ee waddanka sideeba wax ugu dhintay abuuritaanka xisbigu waxay ugu dhintay yacni maskaxdii dadka mutacalimiinta oo waxgaradka oo maskaxdoodii baa xirantay oo waxa la contribution meeshii ka bixin lahayd bay weyday oo meesha shirarka laga qaban jiray ay afkaartooda ku muujin jireen oo looga faa'iideysan lahaa baa xirantay meel walba waxay noqotay guri yar oo koox u xiran urur magac leh u xiran ilaa heer wasiiradii raggii wasiiradaha qaar geli waayaan xisbigii soo geli waayaan ilaa qaar loo bixiyo wasiiradii dowladda kacandiid loo bixiyo bal iska dhaaf nin banaanka jooga intaagta waa lehe kii ku dhex jiray magacyo loo kala bixiyo marka waxaa xirmay wax banaanka contribution uga yimaada caaraac uga timaada aqoon uga timaada dowladdii iyo xisbigii baa yaraatay xubnaha golaha sare ee kacaanka ee ay xisbiyiintu bedeleen ayaa sidoo kale muujiyay inaysan ku qanacsanayn aasaaskii xisbiga xisbiga abuurma horta golaha sare 1976 ayaan xilka wareejinay kowda luulyo waa gartay waxaa wareejiyey golihii sare kacaanka ayaa wareejiyey xisbiga hantiwadaha kacaanka soomaaliyeed ayaa lagu wareejiyey ayaa dhashay annaga markaan runta kuu sheegay xil toos ah oo annaga aan leenahay golaha sare waktigaas ayaa nooga dambeysay qola annaga naga mida maartay muxuu ahaday xisbigii iyo hooshii ayay galeen sida bulid bureau iyo wax lamid ah odayga iyo samatar iyo ismaaciil cali bakor iyo axmed saleemaan iyo xuseen kulmiye iyo adugu dadkaas shan la dhihi jira shantay soomaalida u garanaysaay waa gartay qolo kale oo ambition miiran oo xisbiga dhexdiisa ka soo baxay ayaa ayagana jiriyo waxa la yiraahdo maartay golo sare iyo maartay aad maartay muxuu ahaa u neceb oo aan u jecleen oo ayagana waxay wataan aan la garanayno hanti wadaag iyo waxyaabahaas iyo loo ordayay ayagana maartay dhibkooda ayay la yimaadeen marka adiga markaan isku soo duubo xisbiga dhibaato maartay ayuu la yimid axmed sulaymaan dafle ayaa ka hadlaya abuuritaankii xisbiga hantiwadaaga kacaanka soomaaliyeed wax yar haddaan dib ugu laabto dad ragga aan la hadlay qaarkoodna waxay igu dhaheen xisbiga hantiwadaaga kacaanka soomaaliyeed markii la aasaasay bishii Juulaay 1976 caqabado cusub baa naga hor yimid bay dhaheen markii hore waxaan ahayn koox isku duuban maxaan ku idhaahdaa nin walba dhowr xil hayo la isxilqaamayo xisbigii markuu yimid taladii way ballaaratay dhaheen dhibaatooyinkiina way bateen arrintaa ka waran waa run taladii way ballaaratay raggayagii hore waxaanu ahayn rag is yaqaana rag isku background dhow rag soo wada koray yaanu ahayn raggayagii militariga ahaa iyo raggii maxaan ku dhahaa civiliankee markii hore aanu dooranay ya laakiin markii ay noqotay maxaan ku idhahdaa jantarogan ummadii oo dhan maaragtay la dhaqaajiyey dabcan xisbiga ummadii oo dhan buu noqday nin waliba markaa waa ku jiray dadku isku wada fikrad ma ahayn isku wada background ma ahayn isku wada cilmi ma ahayn isku wada aqoon ma ahayn soo garanaysid marka waxay noqotay in daldalool badani ka soo baxo
mar kale ayaa hogaamiyaha kacaanka jenaraal maxamed siyaad barre uu isku dayay inuu dib ugu laabto mid ka mid ah hadafyadii kacaanka taasi oo ahayd in la raadiyo dhulalka ay dowladdaasi aaminsanayd inay ka maqan yihiin soomaaliya maxamed cali samater ayaan weydiiyey waxa ay ku doorteen inay dagaal galaan bal horta dagaalka etoobiya iyo annagana dhex maray mar dambuu yimiye annaga markii hore dagaal umana soconin mana ku duulin ee waxaa dhacay gobonnimo doonaa jiray oo kacaanka ka hor dhisnaa oo jiray gobonnimo doonadii ayaa markaa xoogaystay oo la abaabulay oo gacan la siiyey gobonnimo doonadii ayaa dagaal galay oo ku qaaday marka dagaalkiisu u socday markaa ciidan kale inuu soo galay noqotay bishu waa Noofembar sanadku waa 1976 madaxweynaha Soomaaliya ayaa saxeexay go'aankii lagu amriyay ciidanka qaranka inay xoog ku soo celiyaan mid ka mid ah saddexda gobol ee kacaanku sheegay inay Soomaaliya ka maqan yihiin Cabdi Warsame Isaaq ayaa ii sheegay in duulaanka ay qaaday Soomaaliya uusan ahayn fikrad habeen kaliya ku dhalatay golihii sare ee kacaanka annaga fikirka dagaalka wuxuu salka ku hayay Soomaali weyn buu maartay gacanta ku hayay wax annaga maartay aan iska maagnay oo dagaalkaas in la galo maartay ma ahayn fikirka kaas waxa midkaasna wuxuu ahaa kii oo leegadii iyo SNL xagga maartay muxuu ahaa waqooyi wixii dhan hadiyaashi waxay ku salgameen oo maartay muxuu ahaa wadanka lagu xoreeyay labaday isku darsantay intii kala hartay in la dhameystiro ayay maartay muxuu ahaa anaga fikirkeena u ahaa tii ayadana haddii waxa yeelatay cadow badan baa yeelatay xilligaasi ay dowladda Soomaaliya weerartay dowladda Itoobiya waxa uu dalkaasi ku jiraa wax ka yar sanad gacanta xukumayaasha cusub ee militariga ee uu hogaamiyo Mengistu Haile Mariam waxaana wadankaasi looga dhawaaqay hanti wadaag sidaasi awgeedna waxaa xubnaha xulufada hanti wadaaga oo horkacaya midowga Sofiyeeti ay u arkayeen in tallaabada ay Soomaaliya qaaday ay wiiqayso fiditaankii hanti wadaaga ee qaaradda Afrika dowladda midowga Sofiyeeti waxa ay fartay Soomaaliya inaysan weerarin ciidamada Itoobiya waayo fiditaanka hanti wadaaga ayaa uga muhiimsanaa dowladda midowga Sofiyeeti raadinta midnimo Soomaaliyeed bilowgii sanadkii 1977 waxay Soomaaliya taageero la'aanta Sofiyeetka kaga jawaabtay si culus iyadoo soo saartay amar ah in khubarada militariga iyo diblomaasiyiinta Sofiyeetka ay muddo 48 saacadood gudahooda kaga baxaan Soomaaliya Cabdi Warsame Isaaq ayaa iiga warramay mowqifkii dowladda Sofiyeetka ay ka taagnayd Soomaaliya iyo Itoobiya qalad kale oo la sameeyay waxa uu ahaa la yiri in ruushka laga saaro Soomaaliya oo xiriirkii gaashaanbuurtana laga goosto arrintaas waxay u baahan tahay xoolo gadaal in loo noqdo u baahan tahay ruushka anigu waxaan ku jiray wafdi oo odigu hogaaminay Moscow waxaan ka qayb galnay shirkii oo xisbiga shuuciga oo Soviet ayaan ka qayb galnay adiga meesha de wixii ragii waaweynaa oo Fidel Castro wixii lamada iyo Saco iyo adigu rag waaweyn maartay ayaa meesha yimid annagana maartay inaan ka yareen ayaanba maartay isku wadnay marka Brezhnev baa secretary generalka xisbiga ahaa marka waxaan isku daynay inaan aragno oo la kulano waa noo suurtoobi weysay si kastaba haddaan yeelnay waa noo suurtoobi weysay markii dambe waxaan arkay Podgorny oo madaxweyne ahaa sheekadii meesha ka soo baxday wuxuu ahaa Podgorny uu yiri aniga goobjoog baa ahaa wuxuu yiri taariikhda lama sheegin military hanti wadaag dhisa marka sidaa daraadeed idanka muslimaadkiin marka meesha oo maartay hanti wadaag runta uu ka soo baxay waa Itoobiya annagana oosha waxaan u soconaa oo u gurguurinaynaa meesha Itoobiya marka meeshaas waa la iska arkay marka waa fiicneed inaan la helinin muxuu ahaa la iska daayo waayo waxaa la yidhaha mabuur ahaa aan buur ku tiirsanaa bishii Juun ee 1977 waxaa Soomaaliya u soo hoyatay guul weyn taasi oo ahayd in ciidamada qaranku ay dib u hantaan badi gobolka Soomaali galbeed kadib weerarro socday ilaa bishii Sebteembar ee sanadkaas si kastaba arrintu ha ahaatee bishii Maarso 1978 ayaa dowladda Itoobiya oo ay xaggeeda mareen dhammaan xulufadii hore ee Soomaaliya ayna horboodiyaan midowga Sofiyeeti Kuuba
yamanta koonfureed iyo liibiya ay dib u soo riixeen ciidamada soomaalida dagaalkiina waa lagu jebiyey ciidanka soomaaliya waxay ku qaadatay dowladda maraykanka 1 sano iyo bar inay kaga soo jawaabaan codsi ay dowladda soomaaliya u jeedisay oo ahaa in gacan militari iyo mid dhaqaalaba la siiyo weliba goorta ay dowladda maraykanku bilowda inay keento gargaar ka dhaqaale iyo ka cunto iyo qayb yar oo saanad militari ah dalka soomaaliya waxa uu durba lugta la sii gelayay burbur dhaqaale iyo fawdo siyaasadeed sidaas darteedna waxaa bog cusub u furmay taariikhda siyaasadda kacaankii militariga iyo hogaamiyaheeda maxamed siyaad barre inkastoo haddana aan la dhihi karin taasi lama filaan ayay ku ahayd markii haddaba ciidamada Soomaaliya lagu soo jabiyay dagaalkii Soomaali galbeed xaalad cakiran ayaa soo wajahday dalka Soomaaliya iyo maamulkii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxaa cadayd in niyad jab weyn oo siyaasadeed uu ku soo wajahan yahay dawladdii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre wasiirkii gaashaandhigga ee dawladdaasi Maxamed Cali Samatar waxa uu ii sheegay in xilligaasi ay u cadayd in dhaawac weyn uu gaaray sumcaddii hogaamineed ee Maxamed Siyaad Barre dadka qaar waxay yiraahdaan haybadii dawladda Soomaaliya iyo tii hogaamineed ee madaxweynaha Maxamed Siyaad Barre waxay dhamaatay dagaalkaas ka bacdi arintaas iyada ma qabtaa fikradaas dhamaatay ma qabo laakiin kulliba waa wiiqantay dagaalkaas wuxuu keenay weakness waxa arintaasi ku raacay Axmed Suleymaan Dafle dawladdii jabta dagaal waxa loo yaqaanaa inay dawladdu baabado waa gartay markaanu sii taagnayn muddo aanu sii taagnayn horta raganimo ay ahayd raganimo aan la filayn bay ahayd Carter baa wuxuu ku yidhi ummad waxa tihiin buu yidhi Maxamed Siyaad wuxuu ku arkay markii uu dhintay Saadaad qabrigiisa oo la isugu yimid odayaashii Denmark adduunku yey ku kulmeen wuxuu yidhi waxa tahay buu yidhi ummad adag oo adkaysinkeedu oo aad u badan yahay baa tihiin waa gartay haybaduun ma ahay inaynu jabnaabay ahayd oo sidaa u dunnaabay ahayd laakiin maynu dumin midaynu sii raaqraaqayn Axmed Suleymaan Cabdalla waxa uu ii sheegay arrin aan hadda ka hor la maqlin oo ahayd in dagaalkii Soomaali galbeed kadib markii la soo jabiyay ciidamada Soomaaliya uu madaxweyne Maxamed Siyaad Barre shir isugu yeeray golihii sare ee siyaasadda oo ka koobnaa 5 xubnood uuna u sheegay inuu xukunka iskaga tegayo waa gartay marka ma ahayd waqtigaas markii dagaalkii laga soo laabtay ma kula ahayd inuu xukunka si nabada uga tago madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waabu yiri waan ka tagaya anaga diidnay goormay ahayd markii laga soo noqday ee ciidamadii soo noqdeen yuu isugu ka yeeray guddiga siyaasadda isugu ka yeeray wuxuu yidhi anigu waan tagayaa waana inaan degaa anigaa la eeganayaa buu yidhi aniga yaa la eeganayaa focuska anuu saaray colaadda anay saaran tahay aniga idinka degaya dawladdii iyo qarankii wada marka intuu soo shiriyay golihii siyaasadda ayuu yidhi dagaalku waa laga soo laabtay aniga ayaa maaragtay bartilmaameed noqonaya waan ka tegaya Ismaaciil baad weydiin kartaa markaa guddiga siyaasaddu ka mid ahaa caynkaa maydin yidhi Samatar baad weydiin kartaa raggii kalaad weydiin kartaa ahaa guddiga siyaasadda inta nool kolay labadaas waa nool yihiin saddexdayadaa malaa ku nool lahay baan u malaynayaa waa gartay marka maxaad uga diideen waxaanu u diidnay waxba maanu wadi kareen waayo ummaddu weli isagay ka dambaysay isagaa figure headkoodii ahaa isagaa maxaan ku idhaahdaa mobilizing factor koodii ahaa isaga maxaan ku idhaahdaa ummaddu ay ku jahan jirtay annaga markaa waxaan noo qaadan lahay niman khaa'iniina oo odaygii maxaan ku idhaha riday ma yidhaahdeen odaygaa isriday oo odaygaa maxaan ku idhaahdaa annagu sidaas baan u garanay dabadeedna waa dib ama aynu wada dhacno oo iska dareer rabo aan shaydaanka qabsanayaa qabsade ama nala joog Axmed Suleymaan Cabdalla waxa uu markhaati ahaan u qabsaday labada xubnood ee kale ee ka tirsanaa golahaasi siyaasadda Maxamed Cali Samatar iyo Ismaaciil Cali Abakar ee xilliga nool Maxamed Cali Samatar oo ogolaaday inuu barnaamijkan ka qayb qaato ayaa ii xaqiijiyay arrintaasi waxay ahayd 78 ma sugno hadda bishii inay Febraayo ama Maarso ma qarmadeeyeen wuxuuna yiri haddii looga eego dhanka military
militariganaga waa fiicnaa waana guulaystay laakiin siyaasiyan ayaan arrinta ku fashalnay sidaa aawadeed marka siyaasadii anaa hogaaminayay waan ka tegayaa meesha. imise qofaa ahaydeen halkeebaa shirku ka dhacay maxaa lagu jawaabay markii uu sidaa yidhi? waxaan ku leeyahay horta qolada kale allah u naxariisto xuseen kulmiye iyo ismaaciil cali abukor iyo axmed saleebaan xamar bay kula shiray laakiin aniga asaga waxaan isku aragnay meel gudaha dalka ah maxaa yeelay markaas aniga hargeysaan joogay xamar ma joogin dabadeedna arrinta anuu ii soo jeediyey anna waa ka diiday saaxiibadayna waan gaarsiiyey ayagana sidoo kale ka diideen waxay yidhaaheen ama waa ka wada tegaynaa meesha ama waa wada joogaynaa. maxaad uga diideen markuu soo jeediyey taladaa maxaad uga diideen? dee macquul ma ahayn asaga keliya responsaabila ma aha haddii wax ay khaldameen ama wax xumaadeen responsaabilitada waa la wada qabnay marka inuu victim u noqdo wax uusan keligiis lahayn ma habbooneen. balse cusmaan maxamed jeelle oo ka tirsanaa golihii sare ee kacaanka waxa uu ii sheegay in laga yaabo in tallaabadaasi aysan dhab ka ahayn maxamed siyaad barre. maya horta mugidaalka laga soo laabtay anu diyaalka mugeligelayay isbitaal baan ku jiray oo jalmal baan joogay xisbi baa meesha jiray xisbiga guddiga siyaasadda ayaa jiraan hadow iyagaa ku jiri ma ahan mana maclin runtigaanu lahay saaxiibkay maxamed siyaadna u malay mahayo haddii anigu isagoo hubo in maya la dhihi doono bal iska dhigo ku yiri mooye laakiin nin niyad ahaan inuu ka dhigo soo jeedinayo kuma aqoonin mana anaan maalin iimana sheegin gobdoon anaan ahay. 9 bishii abriil 1978 oo ah hal bil uun kadib markii ciidamada Soomaalidu ay ka soo baxeen gobolka Soomaali galbeed ayaa qaar ka tirsan saraakiishii hogaaminaysa ciidanka Soomaalida ee dagaalka ka soo laabtay ay isku dayeen inay afgambi ku tuuraan dawladdii uu madaxda ka ahaa Maxamed Siyaad Barre. saraakiishaasi waxaa ka mid ahaa Korneel Xuseen Cirro iyo Korneel Cabdullaahi Yuusuf Axmed. saraakiishii afgambiga hogaaminaysay waxay ku guuldaraysteen inay hadafkooda ka dhaadhiciyaan badi saraakiishii sare ee wasaaradda gaashaandhigga iyo qaybaha xoogga dalka xukumayay. qorshaha afgambiguna wuxuu noqday mid ay goor horeba ka sii war hesho dawladda Soomaaliya waxaana lagu burburiyey muddo saacado yar gudahooda. waa markii ugu horreysay ee dadweynaha Soomaaliyeed ay arkaan taangiyo colaad darteed u dhex gurguuranaya bartamaha magaalada Muqdisho. maxamed abshir walde ayaa iiga sheekeeyey sidii uu ku fashilmay afgambigaasi. iyadoo inqilaabkii lagu tala jiro xagga jubbada sare hargeysa iyo muqdisho iyo beledweyne iyo dhuusamareeb iyo intaasoo dhan iyagoo isog ayaa nin la degdegay baa la yidhi ayaa gruub la degdegeen iyagoo ka baqay in Siyaad Barre uu ogaaday ama ogaan doono iyagoon kuwii kaleeto u sheegin oo kala tashan malaha isiri aad baad isugu kalsantihiin oo waa qabanaysaan hadda waana tii lagu guuldaraystay lana burburiyey. madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ayaa saxaafadda caalamka u sheegay in 20 ka mid ah saraakiisha afgambiga damacday lagu dilay dagaalka 34 kalena la dhaawacay. si kastaba ha ahaatee lumintii Soofiyeedka niyad jabkii ku dhacay ciidamada iyo isku dayga afgambi waxay sii xoogaysay ku qanacsanaan la'aanta shacabka Soomaalida ee siyaasadda gudaha iyo tan dibadda ee dawladda. ka hor intii aan Soomaaliya lagu soo jebin dagaalkii ka dhacay Soomaali galbeedba koox siyaasiyiin oo mucaarad ah ayaa ku shiray magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxayna hindiseen urur mucaarad ah oo ka soo horjeeda xukuumadda Maxamed Siyaad Barre markii ugu horreysay taariikhda ee xukunkaasi. maxamed abshir walde ayaa iiga warramaya sidii uu ku dhashay ururka Somali Salvation Front SSF. gruubkii waxay ahaayeen xasan cali mire iyo yuusuf cali haaruun ayaa waxaa u tegay haddana ciidankii saraakiil inqilaabkii ka baxsatay oo uu ka mid ahaa cabdullaahi yuusuf ayaa Nairobi tegey. shirar baa halkaa lagu qaatay waxaa lagu heshiiyey markaa in rasmi laga dhigo oo halkaa laga dhiso lagu biiro ururkii awalba kooxdu ay uga dhawaaqday Nairobi isagii laftiisii in la sii wado laakiin maadaama aan Nairobi si rasmiya looga dhawaaqi karin oo Kenyaanku ayan ogolayn waxaa lagama maarmaan noqotay in la tago meel la isku caddayn karo laguna shaqayn karo taasina waxay noqotay Ethiopia.
iyadoo la og yahay taariikhdii hore oo jirtay iyo iyadoo markaas dagaal aada u kharaar oo aada u xun laga soo baxay oo weli uu dhaawiciisii dhan walbaba uu jiro ma ayan dhib yarayn go-aanka halkaa lagu aaday markii dambe oo Addis Ababa la tegay oo congress laga dhigay oo 78 bilihii ugu dambeeyey dad badan baa isugu yimid oo Soomaaliya yani waxaa loo arkayay urur qaran inuu noqdo oo gobol walba leh oo beel walbaba leh ayaa isugu yimid muxuu ahaa waa tii Mustafa Xaaji Nuur gudoomiyihii u horeeyay loo doortay Umar Sariin gudoomiye ku-xigeenkii uu ahaa xasan cali mire waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka Somali Salvation Front dhibaato keentay waxaa loo aasaasay in laga hortago nidaamka ka dhismay Soomaaliya waad ogtahay anigu wasiir baa Maxamed Siyaad Barre iga dhigay waa ka warhaysaa bay la tahay wasiirka tacliintaan noqday laakiin waa diiday waxaan idhaahdaadan dastuur baan samaynay intayadii ministerada ahayd ku heshiinay waa u geynay waa keeni waaye saddex baan ku noqonay markii dambe inta diito ka tagtay markaan ka tagnayna waxaan u nimid rag naga soo horreeyay oo le war maxaynu samaynaayo maxaa la qabtaayo saasay ku timid waxaa leeyahay inta haddii aan wax tari karno dalka waa wanaagsanaan lahayd inaan samayno urur Soomaaliyeed oo aan qabiil lahayn oo ah mabdi'iisu fiican yahay intaasun baan markii ku heshiinay horaantii sanadkii 1981 ayaa jabhaddii SSF ay isku beddeshay SSDF waxayna ahayd jabhad inta badan ku dhisan mabda ayna ku wada jireen siyaasiyiin ka soo jeeda beelo kala duwan oo Soomaali ah Maxamed Abshir Waldo ayaa iiga warramay sidii isbeddelkaasi ku yimid SSF markay ka bedelantay SSDF ay noqotay diidaas waxaa ku soo daray group hor leh oo muxuu ahaa iyagu hanti wadaag weliba shuuciya ayaa ku soo biiray SSDF oo uu hogaaminayay ninkii la oran jiray Cabdiraxmaan Caydiid qoladii Etoobiyaanka oo iyaguna shuuci ahaa iyo Ruushkii oo ka dambeeyey ama Easternkii ayaa ku khasbay SSDF in ereyga democratic la yiraahdo lagu daro marka sidaasay ku noqotay SSDF Somali Salvation Democratic Front siyaasiyiinta haddaba xilligaasi ku biiray ururka SSDF waxaa ka mid ahaa Maxamed Faarax Jimcaale anigu SSDF baan ku biiray 80 dawladii bay ahayd hoomaan ka tegay waxaan aaday seminar Italia lagu qabanayay meeshaas aan aad dib ku helay waliba exhibition dib ku helay kabacdina Italia ka tegay halkaasaan tegay SSDF baan ku biiray isla sanadkaasi waxaa la aasaasay jabhaddii labaad ee hubaysnayd waa jabhaddii Somali National Movement SNM Maxamed Xaashi Cilmi waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka SNM waxa keenay waxa dhacay dhibaatooyin fara badan baa dalkii ka dhacay kibir baa yimid waa tii loo heesi jiray guul wada siyaad iyo magacabihii garashada wax walba la gaadhay waxa badatay xadgudubkii baa batay kolkaasaa for instance kolka dadku Saudi Arabia iyo ka tago ay alaab qaataan berberaa lagala wareegi jiro maraakiib lala wareegay baa jirtay dadkii baa la iska xiri jiray waa la leeyin jiray kolkii dambe arrin qabiil yar dadban ayaa xukunkiiba muxuu ahaa ayuu u wareegay kolkaa wixii la filayay kolkii hore loogu raxleeyay muxuu ahaa gacankiina Siyaad Barre markuu cusbaa ayaa isbedelay oo dabeetana wuxuu noqday wax muxuu ahaa cunsuri iyo dhibaato badan baa ayaa meesha timid kolkaa waxay noqotay dadkaygii kolkaa iskaga tegay dalka ee u shaqo tegay Sacuudiga iyo dhulka Carabta markaa iyana shaqooyin ka furaay waxay noqotay maxaad u shaqaysanaysaa xageed la tegay dad muxuu waxaad shaqaysato kolkaa taasaa keentay dhibaatooyinka dalka ka dhacay waxaanu ku bilownay shirar yar baanu qaadan jiray oo isugu iimin jiray guryo dabeetana tiiba cabashadun baa la isula yimid dabeetana halkii baa laga waday kolkaasay dabeetana waxay noqotay aynu maynu xisbiba samaysano Sacuudigana kagamanaan dhawaaqi karayn oo ma ahayn meel xor u ah muxuu ahaa arrimaha jabhadaha noocaasa kolkaa dabeetana England baanu kaga dhawaaqnay markii aan u diyaar garownay malaha muddo dhowr sanadooda wadnay ayaanu halkaa kaga dhawaaqnay dabayaaqadii 1989kiina waxaa aasaasmay laba jabhadood oo kale oo xoog leh oo kala ah
jabhaddii USC United Somali Congress iyo jabhadda Somali Patriotic Movement SPM. Cumar Xasan Gaalaguul waxa uu ka mid ahaa aasaasayaashii ururka USC. Professor Gaalaguul la yaqaana asaasii koowaad oo USC anaa keenay magaca anaa sameeyay instituutada anaana registraarey Roma ku registraarey ragna waa ila jireen laakiin waa uu la soo batay markii dambe waqti oo dalka dib badan ku jiray waxa loo asaasay yani marxaladda la marayo oo adag aawadeed dib badanaa jiray dalka xukunka kan oo dib badan oo khasaaro u geystay sida looga baxo ee loogu laabto yani looga baxo xukunka ninka kaliya oo dictatoraha aawadeed si yani loogu laabto demokrasiya aawadeeda loo sameeyay. waxaa haddaba jirta in la isku dayo in la mideeyo jabhadaha. Maxamed Faarax Jimcaale waxa uu ii sheegay in dhibaatooyinkii hor istaagay jabhadaha badankood inay noqdaan kuwo qaran ay ugu weyneyd qabyaaladda. waxaa adkaaday inay midoobaan waa adkaatay waxay noqotay inay laba jabhadood la ahaado oo laysu iman waayo afkaartii laisku keeni waayo si kasta oo loo dadaalay waa laisu keeni waayey. SNM runtii waxay ahayd marka urur xoogaa ka madax bannaan oo hub badan iyo taangayaal iyo hub waaweyn iyo bahaysan oo looga arkayn dawladda midista khatar u arkimayn laakiin waxaa dad gaar u degan oo meel banaankaa degan oo ismaamula oo urursan oo bay ahaayeen. SSDF waxay noqotay waa kala daadatay xoogaa la saaray midista xooguu saaray wuxuu u saaray hub waaweyn oo asaga naftiisa baqatin gelinaya bay lahayd oo Liibiya iyo laga helay. markaa waxay noqotay ciidan lagu wareegsan yahay xeraysan oo aan xor ahayn oo sidoo rabo u dagaalamo sidoo kale u madax banaaneen dagaalkiisa ay noqotay ilaa waagi dambe rajil lagu laayay qaar waxa bishay balaanta laga qabsatay oo hubkii laga wareegay. Xasan Cali Mira waxa uu ii sheegay inay isku dayeen ururada in la isku soo dhaweeyo balse ururka SNM ay ku gacan sayreen. xiriir wanaagsan baan la lahayn ururka la yiraahdo USC iyo SSDF heshiis bay saxiixdeen inay mid ka noqdaan. waxaa naga diiday Siilaanyo oo London aan telefoon ugu dirnay. Siilaanyo London baan telefoon loogu diray nin baaba 150 waagaas joogay shilin ka bixiyay lacag annana ama hayn ragii ogaa qaar halka New York joogaa noo soo diray telefoon oo yiri anaga ninkiina qaan oo ka dhameynayna keena waa noo soo noqdeen waxa yiri naga diid. Maxamed Xaashi Cilmi oo ka mid ahaa aasaasayaashii ururka SNM isagu waxa uu leeyahay arrintu qabyaaladu way ka baxsanayd waxayna dhinacooda salka ku haysay inaysan talo siyaasadeed oo dambe la wadaagin hogaamiyayaasha iyo xisbiyada koonfurta Soomaaliya. waxa uu sheegay inay wada shaqayn la sameeyeen ururada qaarkood sida USC laakiin mar walba ay taxadar ka qabeen isbahaysi qoto dheer. horta kolkaa hore waxa jirtay SSDF oo Ethiopia bay iyagu nooga sii horeeyeen oo halkaas ay joogeen Cabdullaahi Yusuf Bawha muxuu ahaa gudoomiye USC beri dambe ayay soo baxday oo markii aakhir lixdkii markii maxayna siyaad barro taagdareeyay ayay asaasantay. kolka SSDF ta iyagu waxay doonayeen israacan isku darsano annaguna israac ma aanan doonin SNM haddaanu nahay dabeecadaha qaarkood baanaan kuma heshiis ahayn. kolka annagu waxaanu inaan cooperation samayno oo iskaashano baa taladayadu ahayd. Liibiyana waxay ku dadaashay in badan in la isku daro ay maalgeliso iyadu hubayso oo noqoto muxuu ahaa arrin xoog leh laakiin annaga Cabdullaahi Yusuf ayaanan kalsooni badan ku qabin wax ku darsadkiisa. waxa isagu horta isagu wuxuu ninka da'daasa ilaa maanta inuu madax noqdo ilaa Soomaaliya uu galo muu miyirsan. kolka tiyo uu ka sii da'yaraana waa ka sii daray oo caafimaad qabay. kolka waxay ahayd muxuu ahaa sidayadabana muxuu ahaa koonfur waanu ku khasaaray oo Soomaaliyadii la isku daray waxaanu anagu tirsanaa oo dhaba inaanu ku khasaaray. yani waxaan la qaadan karin ayaa loo sacrifice gareeyay markii hore way se garan waayeen oo Soomaali qaldaan baa jawaabtii noqotay. taasiyada niyadaanu ku hayno dad wax lagu darsan karo inaan meeshaas ahayn baanu garanayn. bartamihii 80-meeyadii dawladda Soomaaliya waxay u soo ekaanaysay mid talooyin badan ay faraheeda ka baxayaan.
dhinaca kalena dowladda maxamed siyaad barre iyo mucaaradkuba waxay labada dhinacba ku guuldaraysteen inay wax wada hadal ah oo muuqda galaan siyaabo badan ayaa haddaba lagu macneeyaa sababta ay dowladda Soomaaliya iyo jabhaduhu ugu guuldaraysteen inay ka wada xaajoodaan haadaantii uu waddanku ku sii socday Axmed Suleymaan Dafle ayaa iiga warbixiyey fikradda dhabta ah ee xukuumaddu qabtay iyo sida uu markaasi madaxweyne Maxamed Siyaad Barre u arkayay jabhadaha gobernimo doonna ma ahayn gobernimo dumis bay ahaayeen jabhada ku sheeg jabhadu waa jabhadii mabda ku dagaalanta waa jabhadii xorriyadeeda u dagaalan maaha jabhadii xorriyadeeda dumisa ee dalkeeda la dagaalan waa cidaanu la hadlin ma jirto cid diyaar u ahaydna ma jirin cid aanu la hadlin ninka suuqa maraya iyo soo fadhiisan jiray miiska hortiisa kursiga hortiisa ah soo garamis oo la hadli jiray odayaasha qabiilada odayaasha maxaan ku dhahay baaxmistarka niman hortiisa fadhiisan waa yaryahay oo waqtigiisa la hadlin oo umuraha dadka kala hadlin ama dagaaladii soconayay ama dhibaatadii maaragta wadanka ka jirta ma jiro wasiirada iyo mas'uuliyiinta kale ee dawladdaasina waxay ii sheegeen hadallo u dhow kuwa Axmed Suleymaan Dafle markii ay ka hadlayeen sababta ay xukuumaddu ugu guuldareysatay inay la hadasho mucaaradka Maxamed Cali Samatar iyo Cabdi Warsame Isaaq ayaa iiga sheekeeyay mowqifkii dawladda maxaa Maxamed Siyaad Barre ugu guuldareystay jabhadihii soo baxay ee mucaaradka ay hubaysnaa inuu la heshiiyo ayagan diyaar ahayn dad isqanciyey ayaga cabdulaahigan hadde uu isqanciyey maxamed siyaad marna maaragtay muxuu ahaa inuusan ay heshinayn ayuu maskaxda iska gashay marka qolooyinkan kale oo s n m t iyo ayagana haddee aragti kale ayaa maaragtay muxuu ahaa ayay hogaaminayay marka laba iskeenaysa oo fikirka annaga maaragtay waddanka midnimadiisii iyo wixii maaragtay hala dhowra ayaan leenahay ayagana maaragtay inay muxuu wadankii kala gooyaanoo dawladdaasna maaragtay la rido ayaa maskaxdooda keliya maaragtay ku buuxda marka yani dad maaragtay diyaar u ma ahe Siyaad Barre ma isku day inuu la heshiyo inuu la xiriiro saad u qancinaysaa kuwa kula safar markaad tiraaho kuwan aan la heshiinaya aad la heshiisidee dariiqay kula heshiinaysaa yani jabhadaha waa lala hadlay waana lala hadli karay ma aha in laga aamusay totally in la ignoraal garay waa lala hadlay qaar hadalkii waana qaateen waana ogolaadeen waana doodina waxbay ka galeen qaarna waa diideenoo halkooday taagnaadeen marna ma ka wada hadasheen madaxweynaha xaaladda waddan ku socdo jabhadaha soo baxaya maxaan ku idhaha dagaalada socday waddanka iyo xaaladiisa iyo meesha ku dambayn kara marna ma ka wada hadasheen maya u kaaday yani waan isku dayday maaha inaan isku dayin inaan la heshin jabhadaha waa isku dayday waase suuroobi weyday jabhadaha qaarna aad bay u fogaayeen yani kuwa hadda goostay oo kale qaarna xoogaa waa ka soo dhawaayeen intaasoo wada hadal iyo la wada xaajooda waa ogolaayeen dhinaca kalena jabhadaha laftigooda ayaan isku shuqlin inay iyagu dhinacooda wada hadal iyo xal raadiyaan si xataa ay guul diblomaasiyadeed ugu soo hoyato dagaalkooda hubaysan Maxamed Xaashi Cilmi ayaa noo sheegay in jabhadda SNM aysan marna isku dayin inay wada hadal la gasho dawladdii Maxamed Siyaad Barre marka kolkaad hargeysa aan maanta joogo saddexda galabtii baa dadka la xirayn jiray iyo muxuu afartii iyo meelaha ayaa dadka la xirayn jiray dadkii brey bay ahayn waxay ugu dhoweyd kolkii heshiiska ay wada galeen dawladdii Ethiopia halkuu annaga nagala bilaabi lahaa waxa weeyaan ayaa meel khalada uu ka bilaabay kolkaa guul bay tirsanayeen oo dabeetana waa kii dhulka soo mareeyay halkan muxuu hargeysa dhulka yimid kolkaa waxay u haysteen xaggooda dawaafar baanu ka haynin jirnay oo la qabqabanayo waxa ka khaldan nimankan dictatorsku kolkay meel gaadhaan runba ma helaan dhinaca kalena Maxamed Abshir Walde oo ka tirsanaa ururka SSDF ayaa ii sheegay in dawlado shisheeye oo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Talyaanigu ay isku dayeen inay wada hadashiyaan dawladdii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre iyo jabhadaha mucaaradka waa la isku dayay marar badan baa la isku dayay shisheeye iyo Soomaaliba waa isku daydeen Soomaali baa jirtay dhowr jeer ku talisay dhexdhexaadin carab baa iyaduna ku talisay dhexdhexaadin talyaani baa ku taliyey dhexdhexaadin xataa maraykanku 1982 anigii xasan cali mire
oo s d f ka socona iyo siyaad bare oo tegay america waxay ku taliyeen isma aanaan arag isbuma ayan kaayakeenin halkaa laakiin waxay ku taliyeen in dialogue la furo iyaga oo doonaya kana walwalsan ruushku inuu dib ugu soo noqdo soomaaliya dagaalkii qaboobaa mar walbaba marna hadda siyaad baraa diidanaa intii hore oo dhan oo aada malaha isugu kalsamaa intii dambena waxaa diidanaa guddoomiyihii s s d f kaa diidanaa intaa keliya maahana howlo kaleeto oo badan oo aan qabo in wax looga bedeli lahaa iyada oo aan sidii hadda wax u dhacayn ayan u dhicin si ka wanaagsan wax isu bedeli lahaayeen ayaa iyaguna jiray oo aan hirgelin taarikhyahanada Soomaalidu waxay ka siman yihiin in dawladdii Maxamed Siyaad Barre iyo jabhadaha labaduba aysan la imaanin fikrado lagu baajin karay dagaalkii iyo jihadii uu waddanku ku socday inkastoo ay jabhaduhu ka sinaayeen mabda'i ahaa inay xukunka ka tuuraan Maxamed Siyaad Barre haddana waxay markii dambe iyaga laftigoodu ay ka baxsan waayeen in dhaawac soo gaaro hadafka iyo halku-dhagyada qaran ee ay sheegeen inay ku dagaalamayeen sida uu sharaxayo Maxamed Faarax Jimcaale كل انت هشيس لوية قف كان وحقص نجار لكن واحد هشيس لوية تستور بورها برجرام بورها انت ولد عن لبدلو لغد الرهمام والوناكسن ايو ديمقراطيات ايو الشيء ايو برنامج كان نوغر برنامج نوع صحة لكن هذا بروبلم هو حوي الصومالي بان هاي تستور كما كان نور با si unbuu shaqeynaa ninba si buu shaqeynayay guuldarradan siyaasadeed iyo cududda mucaaradka oo sii kordhaysay waxay keentay in ciidamada jabhadaha hubaysan ay si badheedh ah u qaadaan guluf ay dhul kaga qabsanayaan ciidamada madaxweyne Maxamed Siyaad Barre 27kii bishii May 1988 jabhadda SNM oo markaas ugu cudud roonayd jabhadaha mucaaradka ayaa duulaan ku soo qaaday gobolada waqooyi galbeed iyo Togdheer oo ay taageerayaashoodu aad u degan yihiin wajigii hore ee dagaalka ciidamada SNM-tu waxay qabsadeen gobolka Togdheer badankiisa iyo gobolka waqooyi galbeed oo ay ku jirto badi magaalada Hargeysa ciidankii dawladana waa la jiray xeriyihii milatarigana waa la go'doomiyay waxaana dawladda Soomaaliya la soo diristay guuldarro weyn oo dhinaca ciidamada ah kumanaan kun oo qof oo isugu jira rayid ciidamadii dawladda iyo xubnihii jabhadda SNM ayaa ku dhintay dagaallo qaraar oo isdaba joog ah oo socday muddo 6 bilood ah dagaalku waxaa kaloo uu keenay kumanaan kun oo qof inay u qaxaan dalka Itoobiya kadib markii ay ciidanka dawladdu bilaabeen inay diyaaradaha dagaalka ku duqeeyaan goobaha rayidku degan yihiin jabhadda USC waxay bilowday inay magaalada Muqdisho si qarsoodi ah ugu soo daadgureeyaan ciidan hubaysan iyo xubno ka tirsan dhalinyaradooda dagaalanta ciidankaas iyo kuwa kale oo uga biiray magaalada Muqdisho waxay ku dhaqaaqeen fulinta amarada madaxdooda oo ahaa inay rabshado hubaysan oo dil iyo dhac ah u geystaan saraakiisha iyo taageerayaasha dawladda deganaansho la'aan iyo khalkhalna ka ridaan caasimadda ammaankii magaalada Muqdisho ayaa cirka isku shareeray Maxamed Cali Samatar ayaa sharaxaya xaaladii jirtay xilligaasi dagaalka xamal inuu soo gaaro ka furmo lagu dagaalamo waa khalad waana muuqanaysay markuu gobolada marayay bay ahayd in talaabo laga qaado calaa ayi xaal taas rag kale u taallaa aniga iima taalle waxaa weeye wixii baa kala daatay xukunkii iyo cududii iyo awooddii ciidan ayaa yaraad markaana mucaaradkii waxay heleen jaalis galabnimadii maalintii Axadda ee 30kii December 1990 ayaa si rasmi ah dagaal uga qarxay xaafadda Wardhiigley ee bartamaha caasimadda Muqdisho dagaalka oo markastaba la filayay ayaa ka bilowday saraakiil booliiska dawladda ah oo baabuurkii ay la socdeen ay ragga u dagaalamay jabhadda USC ku weerareen wadada tagta Villa Soomaaliya ee dhexmarta degmada Wardhiigley ilaalada madaxtooyada ayaa kadibna tacshiirad huwiyay goobtii uu shilku ka dhacay taasoo xariga ka jartay xiisadii foolanaysay 2 saac kadib markii ay rasaastu ka curatay magaalada Muqdisho ayaa idaacadaha caalamku ay soo xigteen afhayeenkii jabhadda USC ee magaalada Rome kaasi oo ku dhawaaqay in ururkooda uu si rasmi ah u bilaabay dagaalka Muqdisho ka socda fiidnimadii 26kii Janaayo 1991 iyadoo ururka SPM ay Muqdisho kaga soo siqayaan dhinaca koonfureed SNM-na ay qarka ula saaran tahay inay dul maraan ciidamadii aan cidina u maqnayn ee dawladda ayaa jabhadda USC ay xoogga weerarkeeda saareen sidii ay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uga salkicin lahaayeen Villa Soomaaliya
taasoo noqonaysa guushii ugu weyneyd ee ay gaaraan muddadii 28 maalmood ah ee dagaalku uu ka socday magaalada Muqdisho. galabnimadaasi ayaa laga itaal roonaaday ciidamadii dawladda waxaana laga qabsaday xaruntii madaxtooyada. halkaasina waxaa ku soo afjarmay 21 sano oo madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uu ka talinayay Soomaaliya. labadii bishii Janaayo ee sanadkii 1995 ayaa madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uu ku geeriyooday magaalada Lagos ee dalka Nigeria oo uu in muddo ahba magangali ahaan ugu noolaa tan iyo bishii Abriil 1992 markii ugu dambayn uu ka baxay Soomaaliya. dhowr maalmood kadib geeridiisiina waxaa lagu aasay magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo. markii ugu horreysay ayaa haddaba qaraabadiisa ay noo xaqiijiyeen xanuunka uu u dhintay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre sida uu ii xaqiijiyey Axmed Suleymaan Dafle. wuxuu dhintay maxaan ku idhaahdaa sonkor buu u dhintay diabetes buu ahaa diabetesku marka dambe uu xumaado wadnaha iyaba afektaraya iyo maxaan ku idhaahdaa kelyaha iyo waxaasoo dhan buu afektaraya laakiin kelyo u dhintay iyo wadnuhu u dhintay midna laguma odhan diabetes buu ahaa runtii. madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa uu ka tegay dhaxal midaba kala duwan leh samaan iyo xumaanba. waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa madaxweynihii wakhtigii uu talinayay uu dalku aad u dhismay ha ahaadeen adeegyo waxbarasho warshado wadooyin iyo mashaariic wax soo saaraba. balse taariikhyahanadu waxay isku raaceen in madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uusan isku shuqlin inuu dalka u diyaariyo marxalad uu ku sii deganaado siyaasad iyo dhaqaale ahaanba isaga kadib. waayo waxa uu dalka si silcis ah ku sii maamulayay 12 sano oo dheeraad ah laga bilaabo markii ay samaysmeen jabhadaha mucaaradka ee hubaysan. haddaba madaxweyne Maxamed Siyaad Barre nin caynkee ah ayuu ahaa? waa su'aal xasaasi ah Soomaaliduna ay maanta ku kala qaybsan tahay. laakiin bal aan hor dhigo raggii la soo shaqeeyey iyo kuwii ka soo horjeeday labadaba. waxaan ugu horraysiinayaa nin ay muddo dheer soo wada shaqeeyeen dalkana ka soo qabtay jagooyinka wasiirka gaashaandhigga iyo ra'iisul wasaare. waa Maxamed Cali Samatar oo lagu tilmaamo inuu ahaa nin ay si aad ah isugu dhowaayeen madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. Maxamed Siyaad Barre waa la wada yaqaan shakhsi adag oo calool adeeg badan leh oo waxyaalaha qaar aanan u daciifin oo noocaas u ahaa. laakiin haddana sida dadka qaar ay ka dhigayaan cruel muusan ahayn waxyaalo badan oo hadda loo dhoobayo oo dusha looga tuurayo ma uusan lahayn. maxaa ka mid ah? waxaa ka mid a midda crueltada aan ku leeyahayba oo yacni cadaawad iyo irmaan iyo reer buu maagaa oo qabiil hebel buu rabaa ama dabcaa in la baabi'iyo iyo waxaasoo dhan waa iska sheeko. ninka hadduu maamulka madax u yahay ma raadin karo dadku maamulayay ka mid ah in la baabi'iyo waxaas macquulna maaha. musuq maasuq miyaa jiray? musuq maasuq miyuu ahaa isaga? ma malaynay maya ma ahayn. arrimaha dhaqaalaha uu ka fogaa inuu maarata farageliyo. dad fara badan baa waxay yidhaahdaan oo siyaasiyiinta hadda u badan iyo dadka hadda siyaasadda oo daraso waxay dhahaan wax kasta oo maanta Soomaaliya ka qaldan waxa ka mas'uulahayd xukuumadda Siyaad Barre. jawaab khalada weeye waana nin walbana uu garan karaa. nin walba uu garan karaa taas inayan soconaynin. dowladdii gacaanka hal isweydiiyo maxay qabatay intay gaartay awooddeeda maxaa dalka u qabsoomay intay xukunka haysay maxaa ka dhismay dalka dowladdaas kadibna maxaa soo baxay hal isweydiiyo marka xaqaa'iqa markaasa loo yimaado.
axmed sulaymaan cabdalla waxa uu isagu ku dooday in muddada dheer ee maxamed siyaad barre uu ku dheganaa xukunka ay ahayd waddan jacayl ee aysan ahayn xukun jacayl buugaagta iyo qoraalada la sameeyey xilligaa wixii ka dambeeyey iyo waxaa la yidhaha siyaad barre dictator buu ahaa 21 sano waddan ka teliyey xukun jacayl buu muddadaas uga talinayay soomaaliya ma ahayn waddan jacayl buu uga talinayay waddan jacayl yuu uga talinayay maxaa kalood iiga sheegi kartaa shakhsiyaddiisii waxaan kaaga sheegi karaa shakhsiyaddiisii nin naxariis badan buu ahaa oo ka ugu daran dadka ee isaga ka hor jeesta ee la dagaalama ee doona inuu dilo saamaxa haddana taas haddaad dib u raacdo dadku saamaxi jiray waad ka heli kartaa yaa ka mid ahaa dad walba cid walba cid walba cid walba cid walba madaxdaa ka mid ahayd madax badan oo madaxdayadii ka mid ahayd oo ka hor timi oo la dagaalantay oo xumaysay yaa ka mid ahayd qaar ma iga xus kartaa rag badan ma xushadayo ninna kuma sheegayo ku odhan maayo hebel ku odhan maaye adigu raac bal recordkiio raggii la xidhxidhay ee maxaan ku idhaha bal dib u raac waa cumar carte maxaan ku idhaha raggii kale la xidhnaa adigu aniga hay sheegin waxa soo garamaysid hay hor ordin adigu yani waxaad helaysaa sanad walba dadka jeelka ku jira badankooda waa la saamaxi jiray marka October iyo soo galaan ciidaha iyo waadagay cusmaan maxamed jeelle waxa uu ka mid ahaa golihii sare ee kacaanka xilal wasiirnimada uu ka soo qabtay dawladdaasi waxaa kaloo uu ku jiray saraakiil jagooyin sare ka soo qabtay dawladda madaxweyne maxamed siyaad barre oo 1982 xabsiga loo taxaabay xubnaha kale ee lala xidhayna waxaa ka mid ahaa ismaaciil cali abakar cumar carte qaalib cumar xaaji masalle maxamuud yuusuf weyrax warsame cali faarax iyo maxamed aadan sheekh waxaan weydiiyey cusmaan maxamed jeelle in maxamed siyaad barre uu mas-uul ka yahay wax kasta oo ka xumaaday soomaaliya wixii ka dambeeyey 1991 waa laga yaabaa dadku inay yidhaahiin maxamed siyaad ayuu daafacayaa laakiin anuu daafacayn ilaahay buu odaanka lagu yidhaahday runta sheegaha buu yidhaahday oo yaani mataqaanaa inaad cadaalad samaysaan idinka fogeyn naceeb aada odagtahay naceebta waa aayada ulacni marka waxaa weeye maxamed siyaad hadduu wax fiican oo la taliyo wada heli lahaa wuu hagaagi kari lahaa xukun jaceylku wayska meesheedooda dadka udad bay ka dhexaysaa mucangeg ma ahayn waa laga dhaadhici karay wax taas waxaa jirto maalin an aada dadka isu wadaweyn maxamed siyaad oo asagoo waxyaabaha aadkood cirkaa la marayo intaan gacaha faaniyo baad miyaad waalatay markaad u sheegto cuda laakiin waa naga xanaajiyeen madaxmayna gaarsiiyeen ma wada ahayn nin mucangega laakiin waa la taliyayaal xumaa waxa weye dadku waa gafaya maxamed siyaadna waxa weeye dee ninta oday soomaali buu ahaay waa mataqaana aroontiisana wuxuu ahaa iskadi kanimo ka soo bilaabay sidaa ku dallacay oday soomaali u ahay waa la xumeeyey maahina sid ahaan ma xumayn laakiin mugii dambe meel foogay la gaartay cabdi warsame isaaq waxa uu la soo shaqeeyey xukuumadda madaxweyne maxamed siyaad barre laga soo bilaabo 1969 markii uu talada qabtay maamulkaasi ilaa uu xukunka ka dhacay 1991 markii maamulkaas xukunka laga tuurayna waxa uu cabdi warsame isaaq ku biiray kooxihii waddanka ku soo dagaalamay waxaana uu qabaa inaan mas-uuliyadda burburka soomaaliya dhammaanteed dhabarka loo saari karin madaxweyne maxamed siyaad barre maya waxaas ma jira waxaas ma jira haddeer waaad arkaysaa haddii oo dad isogalo wax u maaragtay noqonaya ay yihiin siyaad barre hadda waa tigay intaasana maaragtay la maraya hal meel ay isugu yimaadaan oo waxay ku heshiyeen oo ay fulaan lama arkin marka waxa weeye siyaad barre iska hadal wey dhinaca kalena madaxda ka tirsanay jabhadihii la soo dagaalamay xukuumadda madaxweyne maxamed siyaad barre mowqif aad u adag ayay ka qabaan shakhsiyaddii iyo xukunkii madaxweyne maxamed siyaad barre cumar xasan gaalaguul waxa uu ka tirsanaa ururka USC wuxuu ahay nin wakti dhib jiray dalka qabtay militar ahay militarkana aragtidiisa waa xadadan tahay waatana la yidhaahdo waa faras labada dhinacba aan u jeedin ee hortiisa kaliya arkaayo markii dambena hadee waa nin marka uu xoog yeesho oo meel qabsado yani waxay noqonaysaa
inuu wax la qabto ayaanta ugu horeyso oo bilaabayo wax alla waxay ahaadaanba oo yacni nidaam ku sameeyo waxyaalaha sharci u dejiyo hore u qabto laakiin markii uu dego asi yacni uu nagaado dawladdiisana ay nagaato wuxuu noqonayaa nin ismahdiyey. mowqifka ugu adag ee madaxda jabhaduhu ka istaageen maxamed siyaad barre waxa uu ahaa kan uu qaba ururka SNM oo colaadda ka dhacday dabayaaqadii 80-meeyadii gobollada waqooyi haatanna loo yaqaan Somaliland ay si weyn u saamaysay ururkaasi. maxamed xaashi cilmi waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka SNM. iminka haddaan kuu soo qaado Somaliland Hargeysa magaalo walba duleedkeeda waxa ku aasan xabaalo waxa jira muxuu ahaa xabaalo waaweyn oo dadkii lagu xasuuqay ay ku aasan yihiin waa calaamad taala oo rag iyo dumar iyo carruur wax walba leh oo kolba daadku Hargeysa soo saaro waad ogay inuu jasiiro waa tii inta la qaaday dadka lagu ururiyay muxuu ahaa lagu laayay jasiira waa halkay ka bilaabantay baa halkaa ahayd dabeetana maanta magaalo reer Somaliland oo aan intan muxuu ahaa xulafada la ahayd maahe aan mass graves ku aasnayn maanta ma jiro kolka waxa weeyaan astaantaasa meel walba u taalo raadkaasu ka tagay in siyaad bar kolka waxa weeyaan ninkaasi wuxuu ahaa shaytaan ilaahay ummad u soo diray buu ahaa kolka astaantiisa iyo xumaantiisa waxa la waxa maanta dhacay oo dhan dembigeeda isaga muxuu waa sunnihii uu dhigay weey. waxaa fikrad aan taas ka fogeyn qaba maxamed abshir waldo oo ka tirsanaan jiray ururka SSDF. wuxuu ahaa sarkaal dawlado gumaysigii la soo shaqaystay talyaani iyo ingiriisba wuxuu ahaa nin muujiya inuu isku kalsan yahay haddana ficilkiisa ayan ka muuqan inuu isku kalsan yahay wuxuu ahaa nin jecel dadka inuu tuso inuu yahay leader Soomaaliya oo Afrikaana oo progressive horusocda ha yeeshee muxuu ahaa askari ku cadaaday siyaasadiisii iyo taariikhdiisiina miraheedii waxaa laga arki karaa halka Soomaaliya ay maanta ku sugan tahay. ma waxaad leedahay wax buu ku leeyahay waxa hadda taagan? kuma laha keliya waxa weeye aas-aaskii dugistii Soomaaliyeed maamulkiisii bay ka dhalatay habxumada iyo dhaqan xumada iyo qabiilka iyo kala taga iyo kulli waxay raad ku leedahay oo aanu la dawoodi laanahay waxa weeye habkii uu wax u maamulay iyo taariikhdii uu nooga tegey iyo dhaqankii uu nooga tegey. rag uu ka mid yahay xasan cali mire oo ka tirsanaa ururka SSDF waxay qabaan inaan eedda loo wada saari karin madaxweyne maxamed siyaad barre balse ay tahay inay la qaybsadaan raggii talada la hayay waddankana la maamulayay. maxamed siyaad barre intii dad qabtay kama badna chance buu helay uu dadka xoog u qabsaday isagu ku qabsaday laakiin si darra hadii maxamed siyaad barre waayo aragnimo iyo aqoon midna dadka kama badin keligiis wax la eedeeyo ma aha eedda keligii ma leh waa lala wadaaga dadkii la shaqeeyaa la wadaaga dadkii ma aragtay oo aan qaban warkadaasaatan oran maxaa yeele wuxuu gaarsiiye meel uu isaga maaha nin kala hadli karin waddan maaha meelna laguma tago marka sideedaba qof keliya yaan la eedaynin inta kale oo waddanka joogta hal nin waa ka tashin karin laakiin dadkii baan talo si loo qabsadaba ma naqaan dadka siday talo aynu u qabsanno garan ahaan ilaa hadeer ma aynan baran wada hadalka ma naqaan nin walba anoo reer hebel ka bilaabahaya waryaa adigu reer hebel baa taa laleeyahay maba aha waddan baynu wadaagnaa iyo walaalaynu nahay iyo wardadweyniina la dhaafiye iyo waxaaba hadalku kuma jiro. maxamed faarax jimcaale waxa uu aaminsan yahay in sida xukunkiisa oo kale madaxweyne maxamed siyaad barre ay shakhsiyadiisu isugu jirtay wanaag iyo xumaan labadaba. wallahi waxaan isleeyahay waagaas waa kuu sheegayoo waxaa ii muuqday dictatorship nacab dictatorship baa igu jiray maskaxdayda ku jiray laakiin waxaa ii muuqday waxaan arkaa dhinacana nationalism weyn buu lahaa oo nin maaragtay isla weyn buu ahaayoo Soomaali ah oo isla weyn oo iskala weyn wuxuu dhihi jiray warshadaha iyaga anagu aan la jabjabno oo la kufkufno oo qaladno oo wax naga xumaadeen intii aanu ajnabi keensan lahayn dhinacaas positive buu ka ahaa dhinacana wuxuu ka ahaa inaan xukun jecel oo dictatora oo qofka aan aamini karin dadka maskaxda furan aan aamini karin hadda marka nooc isku jiro ah.
jabhadda SNM waxay sannadkii 1991 ku dhawaaqday inay ka go'day dalka Soomaaliya intiisa kale inkastoo aysan weli helin ictiraaf caalami ah dhinaca Puntlandna waxaa hogaamiyaashooda ay ku guuleysteen inay nabadda soo celiyaan maamul adagna samaystaan haddaba dhulka Soomaaliya gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha ayaa weli dhibaatadu ka taagan tahay iyadoo ay ku dhowdahay 20 sano tan iyo intii uu xilka ka degay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre deegaanadaasina ay weli degi la'yihiin Maxamed Faarax Jimcaale waxa uu isagu qabaa in madaxdii jabhaduhu ay wax badan qaban karayeen waxa weeye markaan anigu jaanis haysto aan wax ka fiican haysto aan samayn karo oo aanan samayn anuu oranay Maxamed Siyaad baa cagshikayga wax anigu sameeyay masuulka anaa sameeyay oo weyn oo nin weyn oo jaanis la haystay dadna haystay shacbiyad haystay caqli lahaa wax wanaagsan la abuuri karay marka ninkii yiraahdo wixii asagu uu sameeyay waa Maxamed Siyaad masuulka masawir buu noqonayaa Maxamed Xaashi Cilmi waxa uu isagu aaminsan yahay in qorshaha kooxaha koonfurta uu marka horeba qaldanaa waxa weeyaan annagu waxaanu ka bilownay geedka hoostiisa iyo shirar noo gaara oon cidina lacag nagu siinin hudheel weynna aanaan ku jirin oo geedka hoostiisa arrimihii lagu dhamaysto kolkii aanu dalka soo galay horta kolka hore waanu ka dimuqraadsanay oo 3 sanadood ama 2 sanadoodba madaxda waanu dooran jiray annagu mid qudhiina ma haysan jirin kolkaana waxaa charterka ayaa ku qoraa 2 sanadood kolkaynu dalkii ku noqono markaynu hayno 2 sanadood aynu ku wareejino muxuu ahaa dadweynaha kolkaas saasa horta taasi waa meel aanu kaga duwanayn bay ahayd ta labaad waxaanu kaga duwanayn oo kale waxaanu isugu yeedhnay wax alla wixii reer Somaliland qabaa'ilkii deganaa ayaanu isugu yeedhnay madaxdoodii salaadiintoodii burcaan shirkii ku qabanay halaysa saamaxa baa la yidhi halaysa saamaxay dawlad loo dhan yahay baa la sameeyey oo laga wada qayb galay dabeetana tii dambana boorama lagu qabtay kolka horta anagu saasay iyagu halkay ka bilaabayeen waxay ahayd ama qaahira lagu shiraya ama adisababa lagu shiraya ama waxa lagu shirayay muxuu ahaa meel dhul dibadda Nairobi kolka dabeetana hudheelo waaweyn iyo loo barto kolkaaba waxa la geli jiray campaign-ka intaan shirka kalaba la dhamayn campaign-ka yaa madax noqonaya ay ku tagi jireen meesha kolkaas shirarkoodu uma qabsoomi jirin guul lagama gaari jirin waayo hadii jeer waxa ku jiray campaign madaxnimo oo dawladda mid doonayso oo Masar qaar doonayso oo Ethiopia qaar doonayso oo Talyaanigu qaar doonayaan qolada Mareykanku qaar doonayaan kolkaas wuxuu meesha la isugu tagi jiray waxay ahayd in meel campaign cusub lagu galayay ee meel aynu heshiino oo aynu dawlad dhisno oo Soomaaliya ha lagu soo celiyo sideedii fikradiiba ma jirin kolka hudheel weyn oo dalkana sanadkan halkee lagu shiraya ka damba la sii qorsheynaya muxuu kolka ilaa 11 iyo waxay marayeen mooyaan ayay muxuu imkana dii wali mabadayn kolka waxay ahayd goor walba wax dibadda laga soo dhiso dawladda ajnabiga ku lagu leeyihiin bay ahayd Xasan Cali Mire waxa uu leeyahay qaladka ka sokow Soomaalida waxa ilaa maanta ka maqan bisayl siyaasadeed inagoo dhan baan bisayl lahayn bulsho ahaan baan Soomaali maanta yanu ahayn bariga iska daayay marka inaguna waxaan eeganaa reer hebel cudurka la ilaa uu ka baxo ilaa uu ka dhamaado Soomaalida ilaahay ka hanuunsho anigu ma qabo inay dawlad dhisan karayaan maxaa jira nin kala findicilaya dadkii wadanka lahaa inagoo la isku keendaray baa waxa la isku qabtaa 7 milyan ama 10 milyan ba dunida intay la egtahay fiiri dadka bani aadanka oo nool oo shaqaysanaya intay tiro la egyihiin fiiri waxa inaga isu kaaya muujiyay oo odayo aan runtii taariikhna oo qoran lagu aqoonay afkaas wax laga bartay anigu waa yaabanahay shacbigan maxuu la wareersan yahay madax iyo aqoonyahan iyo jinni walba aqoonyahanku dadku ka mid yahay bani aadan weey qabiilka cidi kagama badna iyaga laftooda marka ummad sidaas ku tashatay ama caqligeedii dhaafi waayey waayeel iyo aqoonyahan iyo mid kasta meel la gaari mayso waa ayaan daro weey meel ku lagu gaari maayo in indhaha inta la furo dadku la furo loo dadaalo maalin walba laga hadlo waxa runta ah Israel waa nimankii kaliya isku dayay markay kursi heleen bay iyagina ka baxeen waxay intii waagi joogtay madaxda noqoteen intaasina dhagaystayaal waxaa ku eg barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aan ku eegaynay soo ifbixidii iyo dhicidii kacaankii 21 Oktoobar haddii aad doonaysaan inaad fikraddiina ka dhiibataan waxaad noogu soo diri kartaan cinwaankayaga somali@voanews.com waxaan si weyn ugu mahad celinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay barnaamijkan iyo intii iga saaciday soo saaristiisa